dilaaga saxafiga waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono silsilo soo taxnayd muddo oo lagu ugaarsanayay wariyaasha taasoo uu dhexda ka hayay xasan xanafi xaaji oo ahaa markiisii hore wariye ka soo shaqeeyay idaacado ay ka mid tahay idaacaddii maxalliga ahayd IQK ee muqdisho oo markii dambe ka mid noqotay idaacadihii al-shabaab bililaqaysteen xasan xanafi xaaji cabdisalaan waxa uu noloshiisa inta badan ku soo dhex qaatay al-shabaab waxaana uu ka mid yahay horjoogayaasha ugu caansan kooxdaasi marka loo eego tacadiyada ay geysteen waana shakhsigii kala shaqayn jiray kooxda ugus ee kis al-shabaab dilalka wariyaasha soomaalida ah haddaba xasan xanafi waa kuma isaga ayaa noo sharaxaya qayb ka mida noloshiisa. magacaygu saddexaan waa xasan xaaji xanafi xaaji cabdisalaan. taariikhdeedii anuu sida cad waxaan ku dhashay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya. waxaan ku soo barbaaray isla magaalada muqdisho. dadku goboladu tagtago marka laga reebo inta yar oo hawshii nimankaas kolley shabaabka laaya aan la waday oo aan gobolada soomaaliya dhinacaan u aadayay marka laga reebo inta kale waxaan ahay nin reer muqdisho ah muqdisho ku wax bartay dugsigii hoose dhexe muqdisho ku dhammaystay sare muqdisho ku dhammaystay jaamacad ka mid ah jaamacadaha soomaaliya waxaan ku yaala garaan muqdisho ka wax bartay sanadii 2003 dhammaadka bilowgeedii ayaa waxaan ku biiray raadiyo muqdisho codka shacabka oo markaas uu maamulayay injineer xuseen maxamed ciidiid dabadeeto 2 bilood kadib waxaan ku biiray idaacatul quraan kariim ama IQK idaacadda quraan kariimka dr sheekhdaan maxamed geelle oo gudoomiye ka ahaa milkiyadeedana u lahaa intaas markaan ku biiray idaacaddu ilaa 2006 ama 7 ay raadeen waxaan la shaqeynayay warbaahinta IQK anigoo isla dhinaca kale ka waday hawsha ah la shaqeynta nimankaas waxaan anigu aaminsanaa oo ahaa in shaqadeedii aan wato xilliyada shaqadu aan ka madax banaanahay oo aan shaqada isugu soconina in aan iyagii aado ayaan isku wadi jiray labada shaqo maadaama jumcada kale idaacadda quraanka waxay aad min laga shaqeyn jiray marka laga reebo barnaamij aan ka lahaa oo jumcada nasashada jumcada la dhigi jiray oo soo gali jiray fiidkii hal saac 2 saacna ka bixi jiray marka laga reebo inta kale jumcada laga shaqeyn jumcadii xaggaan aad jiray maalmaha kale reporter aan ku bilaabo shaqadii inta marka warkayga kaansado ayagaan aadi jiray sida ayaa ku isku shaqeyn jiray labada dhinac sida ka muuqatay baa xog badan horay aan wada ogeyn ana xasan qalkiisii ugu horeeyay waa markii halkaan aan imid raadiyo muqdisho gaar ahaan kiisas aniga horeeyo rag badan oo saaxiibo halkaan ka shaqeynaya lagu dilay ugu horeeyay Allah u naxariistay abkii kiiskii lagu dilay maqalkiisa waa markii ugu horeysay aan maqlay waxaan markii aan maqlay in kiiskaas qofku lug lahaa oo nimankan dadka dhibaateeyo oo dadka dila inuu ka mid yahay markii aan maqlay أنا هذا صور كان كقاعدنا يوحى ولا مدها صور كان كهيستي لما أنا مكاس ودهان وأنا جو هل صور وضدك تدلا وأنا حريص لهين صور كان كهيستي وها سينا كاس وما كقاعدي cabsida ay ka qabaan xasan xanafi wariyaasha waxay tahay inta la eg oo ay ka cabsanayaan al-shabaab mid la mid ay ka cabsanayaan aniga xasan xanafi aqoon uma lihi mana aanan aqoonin laakiin maqal ayaan ku maqlay waxaana ku aqaanaa oo aan ku maqlay inuu yahay nin u qidmeeya al-shabaab shirqol iyo maribna u maleega wariyaasha Soomaaliyeed waxaan ku maqlay in uu dilal qorsheysan ka soo bilaabay wariyaashii waaweynaa ee Honafriq Mahad Axmed Cilmi iyo ninka la jiray Cali Imaan Sharmaake ilaa ma dilalka ay ka yimaadeen in wariyaasha baabuur lagu horjarto ama kali loo dilo oo mid loo shirqooshana waxaan ku maqlay in xasan xanafi team uu hogaamiyo oo dhowr wariye ah wariyaasha ku dhex jiray oo dhexdooda marina ka abaabulayay oo shirqool u dhigay inuu kamid ahay hormuud oo u yahay asiga iyo team la yiraahdo Yunis Jibril nin kale la yiraahdo Stella waxaan ku wada maqlay dhamaantood rag u qidmeeya al-shabaab oo shirqoole wariyaasha oo u maleega dabino lagu dilo wariyaasha waxaa la ii sheegay inuu rag badan oo wariyaasha dalka joogay gaar ahaan raadiyo muqdisho uu dilay waxaa la ii sheegay abkay ninkii la oran jiray ee u shaqeynayay raadiyo muqdisho markuu qabtay buu hore ka soo hadlay isagoo wali dilin abkay baan haynaa waana dilaynaa buu yiri meedkiisa soo doonta
rag idaacadda baa ka qabtay oo codkii ka duubay kadibna meydkii baan doonana soo qaadanay xasan isagoo wariye ah ayuu sidaad maqlayseen muddo ka mid ahaa ururka al-shabaab inkastoo markii dambe ay bilaabatay tuhumo la xiriira howlaha u qarsan waxaana uu xasan markii uu dareemay in loo tuhmaya howlihiisa al-shabaab uu iska aruuriyey warbaahinta isagoo si rasmi uga mid noqday ururka al-shabaab oo ka soo qabtay xilal kala duwan waxaa shaqadeeda igu dhiirageliyey oo aan ku biiritaankeeda sabab u ahaa in la yidhaahdo aadan xaashi faarax cayrow oo isaguna diyaarada dagaalku maraykanku ay ku dileen magaalada dhuusamareeb caasimadda gobolka galgaduud ee gobolada dhex Soomaaliya sanadii 2004 aakhirkeedii ayaanan ka mid noqday rag maleeshiyaad ah oo lagu abaabulayay meel ay ula baxeen mucasirka Salaaxudiin oo ahayd khabarihii Talyaaniga oo ku yaala degmada Hiliwaa degmada inay tahay ayaan rajaynayaa dabarka dambe isbitaalka ay ku taalay dabadeeto in muddo ayaan la shaqeynayay dagaalkii waxaa bilowday la dagaalanka ururkii isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyo u dhaxeeyay midowga maxkamadaha islaamiga oo ay qayb ka ahaayeen raggaas oo markaas shabaab iyo lagu yeereeyay magaca jiil jadiid iyagoo kala ah 3 baarti oo kala ah baarta uu hogaaminayay aadan cayro oo meesha saldhig u ahaa baarta uu hogaaminayay sheekh Cabdullaahi Mukhtaar oo hadda dawladda Soomaaliya kamid ah iyo baarta kale uu hogaaminayay wadaadkii la jiray Sheekh Xasan Turki inuu geeriyooday inta xabsiga ku jira lagu sheegay magaalada Kismaayo uu ku geeriyooday ilaahay kuma darnaadee kamid noqoshadii ururkaas iyo ku dhiiritaankeygii iyo howlaheygii anagoo wata ayaan xaggana tegi jiray iyadoo markaas ay ku xirnaayeen raggaas muddo kooban lacaga ay ka heli jireen rag ganacsato ah ama rag ay iyagu u aaminsanaayeen in ay diinta u gargaaraan oo shirkada qaar ay lahaayeen waxaan ku raadaa raggaas qaarna rag dibad joog ah qurba joog ay ahaayeen dadka anagu waxaan kamid ah dhabtii ragga salariga qaata mushahariga ah anaguna wixii ku tabaruci jira naftayadii iyo maalkayagii geey jiray isla meeshaas in la yiraahdo macna Shacbaan oo asagana ku dhintay meel leeyahay Gilisoor oo dalkacay agteeda ah ayaa igala wareegi jiray hawshuna sidaas ayaa ugu mid noqday 2007 bilowgeedii ama bishii 3aad aan idhaahdee ayaan si dhab ah ugu maxaan ku raadayay ishaab biiray al-shabaab markii la shaaciyay dabadeeto ayadoo amir guud loogu magacaabay inta la jiray Axmed Cabdi Maxamuud Godane oo markaas isku magacaabay Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abu Zubayr waa sida iyagu u yeereen dhabtii wada shaqayntii muddo kala duwan kadib waxaa laga mid dhigay maktabka iclaamka ama faafinta baahinta xarakada shabaab mujaahidiin anigoo markaas mas'uulay uga dhigay dhanka xiriirka bulshada ama warbaahinta madax banaan iyo tan al-shabaab markaas wargeys leeyahay al-jihaad iyo website la yiraahdo al-jihaad.com ama .net labaduba ahaa xiriirka ka dhaxeeya afayeenada hadlaya iyo waxa xarakiga ah ee soo baxayo iyo cid loo gudbinayo iyo sida loo kala maareynayo mas'uul kaga noqday markii koowaad al-shabaab markaan ku biiray waxaan kamid ahaa maleeshiyada dirirta oo magaalada Muqdisho qoryaha ku sidata howlgal gaar ah oo ay qaban jireen ma jiro marka laga reebo ilaahay kuma darnaadee in maxkamaduhu goolay midowga maxkamadaha islaamiga Soomaaliyeed wax la yiraahdo jiri jooshan 9 maxkamadood ay ahaayeen oo gudoomiye president madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ka horeeyay waxaan ku raadayay isha gudoomiye ka ahaa soo way caawin jireen iyaguna howlahooda gaarka way fushin jireen meeshaas ayaan xarun u ahayd dadkaas ayaan kamid ahaa meeshaas ayaa qoryaha lagu tusi jiray waxa kaloo saldhig caafimaad u ahayd oo meel ay ka duulaana u ahayd markaas la jiray Ubay Mukacab oo ku yaala asagana isla degmada Yaaqshiid dhabarka dambe shirkadda la yiraahdo warshada baastada ay waxaan ku raadsan saldhig u ahayd caafimaadkooda uu ka duuli jiray howlahooda ay ku wada jireen marka sawirka guud marka la bixinayo waa meel markas ah oo dadku ku wax bartaan laakiin sawirka gaar ahaaneed ee meesha ku jira waa meel rug caafimaad u ah al-shabaab shaxsadaar aweysana gudoomiye ugu magacaabnay asaana markaas fadhi jiray xafiiska Ubay Mukacab sidaas ayayna labadaas saldhig ayayna ku lahayn Muqdisho Cabdullaahi Macalin Mukhtaar dhinacaan degmooyinka Yaaqshiid iyo Cabdicasiis Shibis Boonder dhinacaan adigu heliis ay degan yihiin ay asayna ka shaqeyn jireen
marka ragga kaloo reer maxaan ku raadin turkaas turkina dhinaca jubbooyinka jira waxa ka dhaxay waxay ahayd inay isku gurmadaan qoladii culays la soo saarno qolada kale ay u gurmato intaas baa ka dhaxay siraad laakiin kala amiir ay ahaayeen dad badan fikir kama haystaan sababta loo ugaarsado wariyaasha laakiin xasan xanafi oo loo haysto dilalka wariyaasha intooda badan ayaa sharaxaya sirta ka dambaysa qaarajinta wariyaasha Soomaalida maanta Muqdisho warbaahinno fara badan ka jira idaacad fara badan ka jira telefishinno fara badan wakiilo ka sameystay Muqdisho shabaab dadka dhan ama wariyaasha dhan waxay u xukumayeen xukun gaalnimo ah waa ku celinaya gaalnimo ah laakiin salaad si u kala horeeyay loo dukaday Soomaalidu tiraahdaa maanta cid shabaab ay cadawtooyada kala dhaxeedo waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada caawinaya AMISOM inay nabadda noo ilaaliyaan u yimid Soomaaliya waxa aan brief gareysanahay oo aan aaminsanahay waxay tahay nimankaas maamin Muqdisho ma joogo wariyo ilaa inta la shaqeeyay mooyee inta kale waxa ay ka aaminsan yihiin in xukun gaalnimo ay ku jiraan xukunka ay qaadanayaan murtad ay tahay in la wada dilana ay dhiigooda iyo maalkooda ay u banaan tahay maalmin ayaamna salaasi kula qabatay salaasi u kala loo kala dukada ku sheegayaan la kala horeysiinayo maalinba maalin ninba maalin ajashuna haday kari karaan gacantooda ay ku jiri lahayd al-shabaab ajashu gacantooda haday ku jiri lahayd waa hore wariyaal ka shaqeeyeen Muqdisho laakiin ajashu gacantooda ku jira unfortunately maxaan ku raadaan unfortunately ajashu gacantooda kuma jiro so dad badan oo maanta dawladda Soomaaliya kamid ah waxa ay aaminsan yihiin oo al-shabaabna kamid ahaan jiray in ay wariyo ee Muqdisho ka shaqeeyay maanta xukunka al-shabaab ee ka aaminsan yihiin ay tahay xukun gaalnimo ah xukun dhiigooda iyo maalkooda in uu u banaan yahay laakiin wariyaashu ma oga sirta ka dambeysana waxa ay tahay in laba mid ay tahay waa midda koowaado in loo kala hormaro in al-shabaab la qiimeeyo wariyaashu murtadiin maahan waa dad runtii hawl aad iyo aad u fiican ummadda Soomaaliyeed waxay waa dadka Soomaalida noloshooda go'aamiye weeye bedela dhinac u bedela nabadda u bedela dib u heshiisiinta u bedela horumarka u bedela ganacsiga u bedela waa dad runtii hawl aad iyo aad u muhiim ah oo nolosha Soomaalida lagu adjust gareeyo u wada dadkan weey qiimo leh laakiin qof qiimo leh uma rabaan wariyaha dilayaan aqoonyahanka dilayaan sarkaalka dilayaan wasiirka dilayaan caruurta dilayaan qof kasta oo ah murtad oo ah qof kasta oo ah qof diinta ka baxay laakiin iyada diinta ka baxay waxa jira mar aan xirnaa oo aan maqlay tuuriyare oo hadda taliyaha nabadgelyada qaranka maxaan ku raadayay dawladda Soomaaliya inuu u bixishay maadaama magac shabaab waa dhalinyartaana inteeran hadda isla joogto iyo in badan oo Soomaaliyeed iyo adduunkuba dhalinyaro sharafna walahan kartaa xumaanna walahan kartaa war magacan waa disheen maxaa ay ku disheen nimanku magaciisa dhalinyartu ay dilayaan aan soo celino maxaa loo baxshaa ugu saal yiraahdo ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed hal yiraahdo duuxi ka dambeeyo annaga magaca al-shabaab waa la bedelay waa la socotaa way ku mahadsantahay wasaaradda warfaafintu inay hay'adaha amniga ay runtii ay ayadoon laga fariisan xataa ay totally ay maxaan ku raahdaa ay magacaas hirgelisay al-shabaab wax la yiraahdo al-shabaab magac macnaheedu waxa weeyaan waa dhalinyarana magac fiican waaye magaca fiican inaan u ogolaano maahan in la wasaqeeyo cadawga aan la dagaalamayna waxa la yiraahdaa ugus waxa weeyaan waxa laga soo gaabshay waa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee halkaan fadhiya midda dawladdu ay maamusho on runtii aan shaqo weyn haysa iyo kuwa kale oo ayaga naftooda shaqo weyn haya inta aan ku soo biirin inay ku soo biiraan maanta kadib waxa loogu yeerayaa official name-ka oo nimanka ay leeyihiin waa ugus ma doonayno inaan idaacadaha al-shabaab inaan idaacadaha ka maqalno ma doonayno
isagoo sii sharaxaya xasan ugaarsiga wariyaasha waxa uu ajandaha labaad ee loo dilo wariyaasha ku micneeyey in laba midood ay noqoto warbaahintu mid meel marisa ajandaha kooxda iyo mid la aamusiyo habab kala duwanba ha loo maree waa marka labaadoo ah in wariye ama idaacadooda ka madax banaan ama wariye aanan wariyahooda ahayn in uu Soomaaliya ka howlgalo labadaasba way ku jirtaa waa in aan helaa ajandaha xafiiska uu ku shaqeynayo waxaa kaloo qasaba inaan helaa ajandaha ka soo baxay xafiiskayga cid meel mariso haddii noqoto haddii in dadka Soomaalida ama internationalku in loo sheego noqoto inaan helaa ajandaha xafiiskayga ka soo baxay cid kale oo gudbiso so masti waxaa ah cabsigelinta ma imaanayso haddaada wax dilin ma imaanayso wax cabsigelin ah waa in marka hore lagaaga dambeeya cabsi aadishaa cabdicasiis oo aad taqaanin aadishaa jaamac oo aad taqaanin aadishaa cabdulaahi oo aad taqaanin aadishaa xuseen oo aad taqaanin aadishaa xasan oo aad taqaanin so cabdiqaadirkan iyo maxaan ku rahaa geedigan iyo fulaankan kale axmedkan iyo maxamedkan kale marka inteena la dilo it means waa cabsanayaan waxay ku dhiiranayaan booska ay mareen raggii saaxiibada ahaa hamari waa wax ay ka dibdhigayaan booskaas ha isku marin so cabsidaas meesha way soo galaysaa qodobka labaad oo ah in wax allaala wixii ay rabaan loo sheego ma dhacayso ilaa ay wax cabsigelinteena qayb ka tahay waa wax jira ayadoo inta badan waxaan maqalnaa wariye ayaa la dilay iyo mid baa la dhaawacay waxay dad badan isweydiinayaan inay jirto koox u diyaarsan qofkii wariye sheegtaba in la iska dilo iyo in la dilo oo keliya wariye ay soo sahansadeen oo kadibna sidaas ku dilaan wariyuhu cidda dilayso maxaan ku rahaa waa amni sida aad sheegto waa qoladii bisooladeeda ahayd cidda amraysuna ma ahan inuu asaga is amrayo waa la soo amraa استطلاع لأن ما من روح بصورة وطو أصلا استطلاع أمرين ما فليو فرينتو سهن ويان سهن كان قفكو وصمينا يا مر الله مركو صميو محان كور هذا وحال ربا إن الدلاء عبد العزيز أو أذيك إن الدلو وحصو صمينا نكان أو عبد العزيز ملكو أي صو صمينا تاني جو أروحي واحد لي إيما صو شيء وحصو شيء نكاس أو نكي أميركو وهاي سجى أميركي وحصو وعيا وأميركي سلاع نكاس أميركي سلاع وهو عيا أميركي جودو أميركي جودو أمني مركي أوعى وحد عيسو إلهي كوما درنا هذا وركة محن كور هذا إيش فلنتا وحصو وعيا مدحي دليلك قرشيسنا أيو صو وعيا مدحي دليلك قرشيسنا وحو وعيا أحد كماش أو جو عبد العزيز ومقدشاء روح مسؤولك هو هاي روح مسؤولك هو هاي أيا وعيا دقمدا عبد العزيز جوغي دقمداس أيا ضد أدريو sidaas weeyaan processka way islaac la'aan bataatan wax dhaca ma jiro silsilada dilalka wariyaasha la bartilmaameedsanayo waxay ka soo bilaabatay allaha u naxariistee mahad axmed cilmi oo xilli aroornimo ah lagu dilay meel u dhow xaruntii hoon afriga daynile waxaana dilkaasi oo aysan jirin cid sheegatay wakhtigaasi la tuhunsanaa inay ka dambeeyeen kooxda ugus ekis al-shabaab oo wakhtiyadaasi ay baranayaan dadka Soomaaliyeed waxaana la aaminsanaa inuu xasan xanafi ahaa shakhsigii shirqoolkaasi soo maleegay wariyaal ka tirsanaa shirkadii warbaahinta hoon afriig waxay sheegeen inay maalmo ka hor intii aan la dilin mahad ku arki jireen xasan xanafi maqaayad yar oo ka soo horjeeda hoon afriig halkaas oo uu fadhin jiray isaga lafahantiisu ma diidana xasan inay halkaas isku arkeen wariyaal ka tirsan hoon afriig way jirtaa warka aad sheegaysid hal maalin ayay ahayd rag hoon afriig ka shaqeeya inaan isku aragnay hoon afriig ismihii ay ku taallay hadda ma garan karo cid degtay waxaa ka soo horjeeda piibita subaxii lagu cabi jiray qaxwo iyo sambuus ama isku qabsi wax la yiraahdo mashmashi sambuus aniguna aan degnaa dhabarka dambe ee piibitada waxaa dhici jirtay markaa in subaxii markaan salaada soo tukado masaajid garaashta ku yaala ku soo tukan jiray dhacgunta ah waxaan soo fadhiisan jiray goobtan markaan soo fadhiisto dabadeed waxaa dhici jirtay inaan ku shaaho ama ku qaxwo cabo wariyaashan afriig warka 2 saac ayay u soo shaqo tagi jireen hal saac iyo xoogo ay imaan jireen deeto qaar iyaga kamid ah ma aha mostly ama badana ma la dhihi karo qaar iyaga kamid ah way dhacday in aan isku aragnay maalmaha kamid ah xasuusanahay aan dhihi karo hebel iyo hebel ama hebel bas oo ahaa in aan meeshaas sheegaysa aan isku aragnay way jirtaa aniguna markaas meeshaas maqaayada meesha ka dambayso ayaan guri ahaan degnaa laakiin ajandahaygu ma ahayn dilka عبد الله كل مياه كمدها
أحد أن عبد الله كلمية هين اسمه أنا أعرف ماشي عبد الله كلمية عدو waxaa jirtay in waliba mar kaliya ma aha in aan dhowr maalmood aan ninkan la yiraahdo Xasan Xanafi aan xilliga shaqada aan u socday aan ku arkay meel yar oo maqaaxi ah oo waa hal qol oo gabar sahra la yiraahdo ay Hoon Afrika horteeda ka sameysay oo raashinka iyo shaaha iyo waxyaabahaas ay ku sameey jirtay meesha isagoo fadhiya waxay ku dhaganeed guriga agaasimaha Hoon Afrika Ahmed Abdisalaam oo albaabka Hoon Afrika ay toos isugu beegnaayeen marka Xasan Xanafi dhowr subaxan meesha ku maray dhowr subaxan arkay isagoo xataa waxaan arkay aad fahmaysid nin deegaanka ah inuusan ahayn sababtoo asagu wuxuu isugu ka sheegay inuu deegaanka yahay waxa geed degan tahay guryahan dambe Falastiin iyo Axmed Cabdisalaam dhabarkooda deganahay marka waa in meeshaan aan deganahay intaan xoogaa shaah iyo qaxwo iskaga soo doontaa xasan xanafi waxa uu ku doodayaa inuusan waxba ka ogeyn dilka Mahad laakiin markii la dhaawacay kadib ay al-shabaab ku wargeliyeen inay dileen Mahad Axmed Cilmi kadibna loo diray inuu soo xaqiijiyo dhimashada dhaawac sida uu yahay xaalka Mahad marka la dilay ragii dilay qaar nin amiir u ahaa ayaa soo wacay anoo hurda meel iskool ah عبد الرحمن يوسف العدالة يقان اسكول كأنا نو كدي جري توفيق برادرز أنا جيفو صوعي ديتو محن كل هذا يشوف يرنيو نكا سندلي حبضنا ما لحنا وقفناي داوع إنه قارئ أيان الله يشهق صور كاس هوي وحنا عرق رياله محن أكرم هذا كمدها من حسن موسى سبرية وهذا إن يوروب in Europe I think إنه يوروب شو أنا ملاينا يا محن كل هذا معي جيبي جود عد الله لعد يوريو أنا فيك الشقيدة والمينيس زين أوكر محمدان فيو هذا وكيل كواي متشاكل مدعي والمينيس مركز دم حسن موسى كوا عليه حسن موسى نيو حنقول روح إيشك سوى حجرة تتوحوري وحن جوجنا استال مدينة ما هبنا وحو كشرة صالة استالك وحنا القصة ما يدونا خلين هالسنا ويا هاي أنت سنكون مرة فكرة سو الميني يقول مركز بجاري ماركت ayaa ii yaalay garaash igu dhow gaarigaan la soo baxay nin la yiraahdo Maxamuud Cali Yare Punayste oo wariye ahaa oo hadda asayna dhintay maxaan ku raadayay mutasho ku dhintay 2014kii hadda ahaa ayaa markaas ii dhawaa ninkii aan watay Isbitaal Madiinaan aadnay Isbitaal Madiinaan joognay saalada mahad ku jiraan tagay meesha MM Doore rag badan isku aragnay Falastiin Axmed Xaaji rag badan meesha isku aragnay wariyaal waa ka tacsiyay ماشي حالة ده مبي رجي ويسوي عيين محن كل هذا إيش استارك صالد وساري سوا هذا حوالي 6 ساعة يحوى مريات من دقيقة على صعد مش هيكرا أي صوب حد دكتوركي وحنور قلي جريدة مهد إنه بنتي مركز حالة أضيق الوجري ورنتي أرجع حله دل وحقا كينو جوري وقف صحفية سبرير لوجست ولي بقى أنا جنا لشقينا مركز dareenkayga hadda aad ugu maxsuusto inuu soo wacay laakiin waxaan qiyaasaa dadkii soo wacay inuu ku jiray sababtoo ah laba qof oo kaliya ay soo wacayba Xasan Cadde iyo qof kale inuu asaga ayaan jecel qof rag uu ahaa qofkaas dabcan Mahad ma dhintay ayuu yiri mise waa dhaawac marka waxba kama sheegi karaan aniga markaas xaalad deganaan aan ku sugnaa jawaab aan si xataa ilaa hadda ma aqaan Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsanaa wariyaashii Hoon Afrika ayaa sheegay inuu ku arkay Xasan Xanafi wadada warshadaha isagoo wata gaari kuna sii socda isbitaalka Madiino idaacadan imaanay shir degdeg ah la galay in aaskaas aan ka qayb galno oo hawshaas la qabto dhowr gaari la qaatay anigu waxaan raacay Xasan Cadde Xasan Sheekh Axmed Cadde يعني وأسرعني جاري قاله وتيان رعني إسبتال كمرك اللي هذا هو شركة لعد ولا ماضي ودد ورشدها مركا عن كل عني حرد يقول وذياش أكتر هذا جاك بوينت أو إذا مدة الدولة ده هي حل جالس كويالي جاك بوينت يجي مركا استاجني أو عن سو شاجني أيوه هذا ندبر كأنك هذا يا حسن سو جاري روت مركز وأنا كنا بوريان أي رجعنا بيقان أنا مركز ما أوجن واحدا أما برنامج كان أوني كان كجرا
wuxuu noo yahay nin wariyaha oo idaacadda qur-aanka kariimka ka shaqayn jiray. xasan xanafi waxa uu guta hawshii u tagay isbitaal madiino waxaana uu kooxdiisa ka siiyey warbixin xaaladda mahad oo ugu dambayntii ay dhakhaatiirtu xaqiijiyeen inuu dhintay. kadibna waxa uu ka qayb galay la tashi laga sameeyey halka lagu aasi doono mahad axmed cilmi, isagoo markii dambena ujeeddadiisu ahayd inuu diyaariyo habkii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake oo ahaa agaasimihii hoon afriig. wuxuuna xasan wax ka soo qaaday meydka mahad oo janaasadii lagula tukaday masjidka sheekh cali suufi, halkaas oo isku arkeen xasan raggii dilay mahad oo uu sheegay inay ka doodeen sidii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake. raggii dilay mahad goobtaan isku aragna masaajidka iyagoo damacoodu yahay in cali iimaan goobta ay ku dilaan. way wargelsheen waxa ayna ii yiraahdeen in ay rabaan in cali iimaan isla goobta cali iimaan gaari leyla calaawi madow ah dan gruusel ay ku qorantahay watay inay rabaan inay meesha ku dilaan. waan ka naxay marna waa la yaabay. nin la yiraahdo cukaasha farxaan la yiraahdo magaciisa asala oo ku dhintay meel la yiraahdo coolgod dagaal u dhaxeeyay al-sunnada ka tirsan gobolada dhexe qaybo ka mid ah iyo al-shabaab ku dhintay ayaa isagoo amniga markaas mas'uul ka ahaa wuxuu yiri gaariga oo wato waa nuucmay. waxaan ku iri waa leela saaray rag guriyaala ila saarnaa oo ka mid ah maxamed ibraahim raagi hadda dhintay oo baahinta qaranka u shaqeynaya ka mid ah rag noocaas ila saarnaa waa leela saaray aan ku iri laakiin gaari la gruusel waa. marka intuusa aan dhihin ayuu wuxuu igu yiri gaarigu aan gadan rabno waa nuucee. waxaan ku iri gaariga aan gadan rabno waa gaari la gruusel ah kalarkiisa ma qurxan yahay waa nuucee kalarkiisu yahay. markaas wuxuu qaadanayaa xog ah gaariga nuuciisa in lama soo gaari karo asagiya wuxuu joogaa iftiin meesha la leeyahay ee khibrada barakaad marka loo socdo ku taalo ayuu joogaa. gaariga waxaan ku iri gaari madow waa ilaan gruusel aan ku qoran midab ahaana ana ilama dilno waa mahadsantuu. nin la yiraahdo sandool cabdi siyaada ii yimid qabuuraha anagoo joogno hadda maxaan ku raadayay sheeg oo taksiila ahna waa wadi baaburkiisa uu saarnay. ninkaas wuxuu igu yiri waxaan ku raadayay sheegniyo baaburka noocaas ma cali iimaan markaa shir jiraad ku hayay meesha shir jiraad ku hayay jaamiina intaan duugto iyo khabriga jirno miina loo diyaariyay cali aniga cali baaburkeen baabur raafa foor ah ayaa noo dhaxeeyay. cali iyo nin la sahal oo Reuters u shaqeynayay iyo Falastiin iyo darawalka afartoodii ku saarnaayeen baaburka ay la calaawida ah. miinadii loo dhigay sida ay rabeen ay u noqotay. cali ayaan meesha ku tagay anigu jugtaan maqlay meel godaan ka soo baxay markaas biyo roob ay biyo freeze ah ka soo baxay jug aan maqlay baaburka bareegaan u qabtay raafa foorti waxaa saarnaa dhoorre iyo rag lamid ah saarnaa maxamed maxamuud dhoorre iyo rag lamid ah saarnaa iyagaana igaga horreeyay meydka cali. baaburkii aan ka soo degtay waa imid intaana meydka arag ka hor halkaan inay aheedaan qiyaasayaa inay ka gashay miinada firirkeeda. waxaa dhacday mahad raadi cali inuu dhintay goobta meyd ahaan looga soo qaaday. meydkii waa la qaaday waxaa la geeyey qabuurihii maxay ahayd barakaad qabuuraha barakaad. intaas waa nala socdeen raggan uu ku jiro xasan xanafi. mahad intaan la aasinaa waxaa la yeeshay kulan oo cali uu dhex taagan yahay oo aad ka arki doontaa sawirka. waxaan go'aan ku qaatay in la damiyo idaacadaha muddo 24 saac gudahooda iyadoo laga jawaabayo arrintan dilka mahad oo bilow u ahaa dilkii saxafiyiinta. cali idaacadda BBC dalaanteeda afka Soomaaliga ayuu wuxuu siiyay waraysi markaas uga hadlayo shaqadii mahad Allah naxariiste iyo dilkiisa iyo inuu ahaa mahad nin u doodi jiray ama u hadli jiray dadka amaarta codkooda meel dheer gaarin shaqaduna aysan istaagi doonin. Allah naxariiste mahad waxaa la aasay 2 duhurnimo. calina markaas BBC ayuu waraysi siiyey kadib markii mahad la aasay waan soo baxnay baabuur badan baa la isla socotay. cali waxay isla socdeen Falastiin Axmed Iimaan iyo sahal yar la yiraahdo oo Reuters inuu ka soo qaado u yahay jeclahay sahal. markii la soo baxay baabuurta aad u badneed gaariga ka horreeyay cali ayaan saarnayn. wadadu waxay ahayd marka meel biyo ku jireen roob da'ay. miinada marka waxaa la geliyey meel baabuurka uu saas uga yar leexanayay oo dhiiqada saas looga baxayay. qaraxaan maqalnay markaan qarax maqalnay gaarigu istaagay
qaraxa dhacay kadib waxaa la sameeyey marka waa la soo degay gaarigii oo halkaas ku dhacay iyo allah naxariista cali imaan oo meelahana wax ka gaarin halbowlo go'ay lugna ay jaba tahay ayaa isla markiiba gaariga laga soo dejiyey falastiin dhaawac saas u fudud gaaray dhulkaa la soo dhigay dhulka markii la soo dhigay isla markiiba meydow ahaaba kadib sidii aa lagu soo qaaday baabuuraa lagula soo cararay allah naxariista cali sidaas ayuu ku dhintay baabuur badanna way socotay oo xasan xanifina markaasi waa nala socday siciid tahliil axmed agaasimihii hoon afriig waxa uu ka mid ahaa wariyaal aan marnaba ka bixin dalka oo aakhirkii ku baxay gacanta kooxda al-shabaab waxay siciid ku marti qaadeen kooxda al-shabaab shir isku beddelay shirqool isaga iyo agaasimayaasha warbaahinta maxalliga ah xasan xanafi waxa uu ahaa shakhsigii warbaahinta ku marti qaaday shirkaasi shirqoolka waxaana uu sharaxayaa wuxuu ka ogaa dilkaas siciid dilkiisa sina wax ugu ogaa sina wax ugu ma ogaa sina waa la igu mishimay saddexdaas bay ahayd raggii ila socdaan oo gaariyan wata kaarib ah iyo lagu wiilo staff ah waxaan ugu soo tagay Shabeelle oo ahayd xaruntii aan ku balamiyo iyo agaasimayaasha idaacadaha ama madaxda idaacadaha inaan ka soo wadana ay ahayd aanan ka soo waday soo bistoolatayda aan la baxay kolkii aan la baxay aan soo jeestay laba xabo kala intayna dhicina Siciid oo sii dhacaya arkay laba xaban way dhacay saan hadaan u soo fiireyna unfortunately waxaan arkay rag aan aqaano hebel aan dhihi karo oo shabaab sidaas ayayna u dhacday kadib markuu sheekada iga sheekeeyay xasan xanafi ayaan weydiisay nisa inay ii ogolaadaan xasan xanafi inuu geeyo bartii ay ku dileen allah u naxariistay marxuum siciid tahliil waxayna nisa iga aqbashay codsigayga iyadoo loo xilsaaray amniga aniga iyo eedaysanaha ururka ee nisa oo noo galbiyey suuqa bakaaraha kadibna waxuu xasanna dulgeeyay bartii ay marayeen markii la dilay siciid halkan siciid tahliil axmed agaasimihii warbaahinta hoon afriig ayaa lagu dilay goladaas ayaan ka soo wada leexanay siciid waa hor soconay anuu halkaas ayaan marayay jingadan dhamaadkeeda siciidna halkan ayuu marayay raggii agaasimayaasha idaacaduna way ka dambeeyeen siciid halkan ayaa la dhigay xusuusteydii halkan ayaa la dhigay waxaan kula goortoomay anuu halkaas sii marayay anuguna waa soo laabtay siciid meedkiis halkan ayuu yaalay wixii warbaahinta ka socday ee agaasimayaasha warbaahinta ahna luuqan ayay ku carareen sidaas ayay idaacadda Shabeelle oo dhismeeda bakaara xarunta bakaara ay ku taalay ay u galeen marka halkan xusuus gooni u leedahay sagaalkii bishii September 2009 ayay ahayd way marka xagal socota marka waxaan u soconay guriga arkaysid halka guriga ku yaalo aad hadda lagu soo jeedo daaqadiisa ayuu ahaa goobta lagu talagalay in munaasabada xilwareejinta ka dhacdo aan shaqada ku wareejinayay ninkan hadda leeyahay Yunus Cabditaah la jiray hadda اعلامka kamid ah ama faafinta kamid ah marka halka ayaan u soconay guriga xafladdu ay ka dhacayso guriga sayoo ah laakiin inta aan gaarin daqiiqadaha noo dhinna oo dareemi kartaa halkan ayaa la dhigay Siciid anuna halkan ayaan la gadoomay oo luuq ahayd marka sidaas ayaan uga tagay Siciid meedkiisa halkan u soo saddex xabadood ayaa lagu dhuftay Siciid xabadii koowaad waxay ugu dhacday madaxa laba kalena waa lagu diray kuwa dhagartaan galay intuu ciidda kala dhigay miinada dhex dhigayo waqtigii dhammaayay waqtigiinni adhadalatay baanay laayihii dalkaanay idirkaan ku arkana marna dhaafi maaye siciid tahliil axmed wuxuu qabay shakiga ah inay jiri karto khatar waxaana ka mid ahaa dadkii uu la xiriiray siciid wariye cabdulaahi kulmiye cadow oo ka duubay codkan oo laga helay telefoonka marxuum siciid tahliil markii la dilay kadib dacwadan maxay tahay bismillaahi waxaan ku leeyahay waan rabaa adiga waa tegida nakir diyaar gurigan jooga inta ayaana rabo shabaab oo tagayna hashawan maanta waxaan idin balaadii iyo rajul waaweyn cabdulaahi kulmiye waa saacna marka diyaar garow yahay maxamed abu karne ay soo baxshaan wuxuu soo caya
cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo markaasi ahaa tifaftirihii shabeelle ayaa sheegay in xaruntooda bannaankeeda lagu ballamiyey agaasimayaasha kadibna halkaas la yska raacay wuxuuna cadaala aaminsan yahay in muhiimadda loo wacay ay ahayd oo keliya in la dilo siciid tahliil axmed waxay ugu xusuus badneed maalintii siciid tahliil la dilay allah u naxariista oo xasan uu isugu wacay dadkii idaacadaha madaxda ka ahaa oo adiga aad ku jirtay سعيد وكجري أنا كان كجري هراب وكجري رك بدن إذا عادها مدحك أي كجرين مالن ظهر أي أحد ماشي إذا عاد شبل يدقني هذا لقوب اللمي دتك يوردن حسن يونس اللي هذا جوجي مركي ورياش السكيمد سعيد صودا هاي سعيد حقال السوقي مركي سعيد يمد وحليل إنك حياة وضدي أي لقاضي ماشي يدقني الحوالات قارن مركز مرة إني واحد رجاه الريان أي تلفون وكهلي أيو صون نقضي حسن يونس وصون نقدين جد يرى حوالد ده بشيء دبر كذا مران مرني وحيرين نجوه الريان حسن يونس واحد كل حاجة يجا عطاش يو عبد الله كلمي يحرقان كحسوسته سعيد تهليل على مذوبة كل حاجة أنا جاي مختار هرابة قدام بين إلههم حريسته يا حسن علي الجيسي markaan jid yar isgoys oo ahaa ay dhaafeen iyaga Siciidna uu ka sii baxay annagana aan wali wadadii gelin ayaan xabad maqarnay xabadii gadaalkeena ka soo dhacaysay inta aan fiirin ba waxaan aragnay Siciid oo dhulka yaala waa la kala cararay meesha annaga jid luuq yar ku cararnay wax yar markaan ordaan meeshii soo fiiriyay waxaan arkay laba nin oo bastoolada haysto oo muxuu Siciid sii tooganaya iyo Xasan oo soo jeedo meel xaqo kale Yunus ma soo noqonin boqol sii socday xasan xanafi waxa uu markii la dilay Siciid kadib waxay wariyaal dhowr ah waxa kamid ah dadkii uu wacay Allah u naxariistay agaasimihii Shabeelle Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo isaga la fahantiisu ay al-shabaab dileen waa kan Hiraabe oo sharaxaya wixii dhaxmaray isaga iyo Xanafi xasan xanafi ay tawaan الله نحرسه رأسنا هذا لا على سما نحرسه شيء لا على سما وأنا نك الله نحرسنا ما بعنا لا ونحرسنا لكن من كل جامعة ما يسوي أي وحدة كورنتي aan la dilin Siciid Tahliil waxay al-shabaab u diideen inay warsiyaan idaacadda Hoon Afrika wariye Cabdullaahi Kulmiye oo markaasi ka qaban jiray Hoon Afrika barnaamijka waraysyada ayaa la xiriiray Xasan Xanafi si uu uga qanciyo waxay tabanayaan kadibna waxa uu Xasan Xanafi ku xiray nin la yiraahdo Yunus oo ay dhaxmartay isaga iyo Cabdullaahi Kulmiye sheekadan waxaan walaalow habeen dhawidna waan kula hadlay adigana shabaab iyo dhinaca saxaafadda xiriiriyay maxaa ay ku dhacday arintaas kaasir waxay ku dhacday idinka dawladda ku meel gaarka ayaa idin amaantay oo xafiiska madaxweynaha tagteen oo saas baa la idin soo dhaweeyay maanta waxaan arkaysaa macnaha inta la yiri laaga midka ku dhigtay waxaana markii percentage la fiiriyay garabka weyn nimanka walaaleyna ka qaatay hadii marka maalin oo shir jiraa'id madaxtooyada ka dhacay مثلا في هون في laga soo dhaweeyay jawaabteedu ay noqotay in anaga nagu seexato wax macnaa oo kulleena la qurxoonad ma aysan noqon waxaan dareensanahay nimanka walaalaheen Hoon Afrika waa naga maarmeen waxay nooga maarmeen waxay tahay inay nimanka kale ee anagu aan murtidiinta u haysanay xabada aan ku ridayno inay nagala safteen marka garabkaan haysaa adigu uma baahni waa wax Hoon Afrika anagu saa ani maanta Yunus ahaan dareensanahay saas waay markay saas tahay taladan waxay ku go'an tahay iyaga wararka qaadanaysaan iyaga la xaajooda iyaga la safta inkii jirtaa laakiin anaga keena وأنا كأشي بس وما تذكر إلهي يعني ورك فتفسرنا مختار محمد هرابي أجازمه إذا عدى شبل وحاو كاملها دادو سو عمري أحمد قدنا إن لديلا كواسو كتر سنة ورباهنتا وحانا لقود ديلا مرحوم هرابي قدها سوق بكارها إساقا والله سعودة وريا أحمد تاجر أو إسنا لقود دا وعي وير الكاس قدنا سو عمري أساقا يرقو ريالا وحاكمدها مختار محمد هرابي أجازمه شبل لها من اللي عطاش أجازمها سنباها أيان حسين عبدي أو BBC وكل وريد وها رقم عصا كمدها شن أي هاين صار بنادر أحمدنا بنادر أجسمية هي كمدها إلا صار من المركز وحاس عد أوليه بريسيدنت الشيخ شريف الشيخ أحمد لوسو دورني صا أولها صا أيا سعودي أوليه سعودي أيا سبب وها إلا دلتت كاس ما دام الله أركي إن أولينا يعني
ololaha madaxweynaha oo Axmed Walad Cabdalla wakiilkii xogayaha guud qaramada midowga u qaabilsan Soomaaliya iyo Shariif oo markaas ururkii dibxiraynta Soomaaliya asmara fadhigeedu ahaa ka soo burqaday Djibouti-na ololaheeda uu ka socday soo xaqiiqiyan in shantaas la amro waa ogaa aniga axmed taajir oo hadda qaxooti ku ah Uganda ayaa ka sheekeynaya wixii maalintaasi dhacay 10 talabood kadib dib aan soo eegay marka waxaan arkay agaasimaha idaacadda Allahu naxariisto Mukhtaar Maxamed Raabo dhulkeela marka bal waxaan sii hubiyay waan dareemay xabad ku dhacday bal xaaladiisa sii agbar islaantaada nolol sii gudbin min dhalinyaro oo dhuuban oo adigu aan ku qiyaasay daad 17 jir ilaa 16 oo nin dhuuban oo cad ahaa laakiin ana wajigiisa kale ma garan karayo ayaa xabadii labaad wuxuu kaga dhuftay labada indhood dhexdooda sujuudda meesha la yiraahdo saddexaadna aanu isu soo riday oo runtii jilkeeda dhex martay qoraan u sii cararay markaanu xabado kalena way igu rideen oradkina waxaan ku kala shirkadda Telecom Soomaaliya maxamed cabdullaahi xaaji oo tifaftira ku-xigeenkii Shabeelle wakhtigaasi waa agaasimaha ka Mukhtaar Maxamed Hiraabe ahaa ayaa aaminsan in Xasan Xanafi uu ka dambeeyay dilka agaasima Hiraabe Xasan Xanafi dhowr maalin ka hor agaasimaha Allahu naxariisto Mukhtaar Hiraabe ayuu wiilal la socday baray oo u ekaa dadka wax dila maalintii la dilay Mukhtaar Maxamed Hiraabe Xasan Xanafi wuxuu ahaa qofka ugu horeeyay oo xiriir ragga qaarkeena la soo sameeyay oo xataa ragga qaar isku dayay markii Hiraabe la dilin oo ayagana kharij kooxda ugus ee Al-Shabaab oo hadda gobolkeedu sii dhacayo waxa ay sii laba jibaareen tacadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka ah dhawaan waxa ay dad shacab oo ku shaaxeynaya xeebta Lido ku xasuuqeen maqaayad halka ku taala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maqaayadaasi booqday maalin kadib markii ay mashaqadaasi dhacday ayaa halka ka sheegay in shabaab oo waqtigoodii dhamaaday nimankan waa xaqin dadka Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya waa dhulkii xaqinka iyo dhulkana xaqinka dhamaaday way dhamaanayaan sidaas awoodoodu maalin walba u sii daciifaysa maalin walba hoos u sii aadaysa dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda ayaana ka soo hari doona hadii la yiraahdo Sheekh Nuur Maxamed Abkey tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxay Al-Shabaab ka afduubteen isgoyska ifka xarane xilli galaba isagoo ku sii jeeda guriga ka deganaa xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Yaaqshiid waxaana Sheekh Nuur Abkey oo ahaa nin aan marnaba cabsi ka qabin in la dilo uu si joogto ah u aadi jiray gurigiisa oo markaasi halka uu ku yaalay ay ka talinayeen kooxda ugus xikis Al-Shabaab waxaana Sheekh Nuur uu rumaysnaa qadarta Alle isagoo ku adkaystay inuusan marnaba ka baaqsanayn gurigiisa marar dhowr ah oo lagula taliyay inuu iska seexdo wasaaradda warfaafinta
ismaaciil salaad guuleed istiila oo markaasi ka hor aan laga warhayn inuu ka mid yahay kooxda al-shabaab ayaa ka mid ahaa wariyaal imaan jiray wasaaradda warfaafinta soomaaliya si ay u helaan wararka dowladda soomaaliya waxaana uu ismaaciil istiila si joogtaa u gudbin jiray xogta ah in sheekh nuur abkey uu u shaqeeyo wasaaradda warfaafinta maadaama uusan ahayn sheekh nuur wariye codkiisa la maqlo oo adkayd in la ogaado doorka uu ka ciyaarayay warbaahinta qaranka xasan xanafi oo ay si fiican isku yaqaaneen sheekh nuur abkey ayaa isku dubariday qaabka loo qaarajin lahaa abkey wuxuuna fariistay wadamar inuu ahayd abkey oo aan qabin tuun in la beegsanayo si caadiyana maalin kasta hal wadda uu isticmaali jiray waxa uu arkay abkey xasan xanafi iyo nin kale oo wada fadhiya meel kadibna waxa uu kula leexday salaan isagoo aan cabsi ka qabin in xanafi dilayo kadibna wuu iska gudbay sheekh nuur abkey xasan xanafina waxa uu ka daba diray abkey ninkii la fadhiyey sheekh nuur hadda soo noqon maayo sheekh nuur dilkiisana qaybaan ka lahaa gacanteyda aan ku dilin laakiin sababkeedaan lahaa sheekh nuur maxamed abkey gacanteyda anaa ku qabtay anaa gaariga kala tegey anaa gacanteyda ku qabtay xageed ku qabtay ifka xalan isgoyska ifka xalan ku qabtay muxuu saarnaa marka gaari caasiyo saarnaay suuq xoolo u soo waday sheekh nuur waxaan ku dilay waxay ahayd in uu ka shaqeynayay raadiyo muqdisho oo ahayd markaas idaacadda u shaqeysa dowladda federaalka Soomaaliya hadda telefishin ay yimid howlo badan ay jirta laakiin raadiyo muqdisho markaas ahayd raadiyo muqdisho inuu translator ama turjumaan u ahaa ayaan helay xogteeda nin la Ismaaciil Salaad Guuleed Stella oo hadda Ismaaciil yara la baxay ayaan siiyay inuu u shaqeeyo halkan sidaas darteed anoo masaajidka Abu Hurayra bakaara fadhiyo shaah cabayo ayuu sheekh nuur soo maray uu islaamay waa salaamay uu i hormaray marna waa farxay marna waa naxay mar waa farxay ninka aan arkay oo aan ka aaminsanaa murtad inuu yahay ku farxay marna waa naxay ninka la dili doono in uu yahay nin aan aqaano na waa ka naxay xaqiiqdii markaan ka waran wiil aan ila socday oo meesha ila fadhiya waxa ay raac ninkaas lugta meesha dhiga la dhig suuq xoolo dagnaa suuq xoolna shabaab maamulay deeto sheekh nuur sidaan ku daba kacnay yarkii maxaa ir baawrac samoodantid haa uu waata la raacan ku ila socdo baawrka sheekh nuur baaro ii jiray anna waa ka dambeeyay sheekh nuur ma qabin dhagar ah dilkiisa in aanay wax ka abaabul doono ama in aanay soo daba socdo ama in aanay ninka soo daba dirma aaminsaneen wiilka aan soo daba dirane ma yaqaano soo ninkan waa iska daba socday baar wuxuu jaam ay tageen oo aad loo buuxo baarta suuq xoolaha baarta afgooy baar saas la isugu buuxo la isku dilayo wala joogo wiilka anuguna meesha masaajidka xareed isbitaalka dhinaca uga dhaganay isbitaal xareed in la dhaano mana foomku fadhiisi jiray ayaa waxaan ku arkay yaxay buurkaasoo waxaan u sheegay sheekh nuur abkey asuur saas miyaa warwaa daba kacayna gaari zuuka ah oo aan watay ayaa waxaan watay gaari zuuka ah ayaan ka soo daba baxay gaari zuuka aan ka daba qaadanay waa la joognay sheekh nuur caasi raaceen caasi wiilka ila socdayna uu la raacay soo wiilkii asla waxayna inta uu leeyahay amniga markaas haysta la wacay asayna wuxuu yiri waa idin imaana isbartiiba ku haaya isbartiibaan ku haynay deeto maxaan ku raay wiilkii aan waxay ifka xal ugu dagaa baawrka waayo deeto baawr BL ah waa dareemi kartaa intii church la yiri waxa uu sameeyo baawrku darawalku waxa weeye waxa ugu horeeya inuu bareega qabto uu qabto uu ku joojiyay anaa soo dagay iyo nin kale la yiraahdo daahir macallin daahir ciise la yiraahdo oo saddex loo yaqaan ama abdikaafi ayaa jidka ka sii qaadanay oo hotel Peace ayaan ka sii qaadnay oo maxaan ku raadili doonaa asaga soo labadeena ani iyo saddex wada degnay deeto maxaan ku raadaa wayna wada sheekh nuur ana aqaanin ninka kale muun aqoon ana la soo dagay baawrka ana saartay dadku way yaabeen baawr miyaaradiisu xiran yihiin oo bensal ah waxaan ku raadaa baawrkii ku horgooyay niman dhexeeran ay ka soo dageen cimaamada wato iyo bistoolado dadku xooga la yaabay ku noqotay hal nima hadana kala baxay wixii xitaa wuxuu saarnaa caasi dhinac uu ka furnaamay dhinac kale ayuu saarnaa dhinac kale furay ana la soo dagay baawrka ma 5 kun ku saarnaa 5 kun ana dhiibay waa iswada raacnay soo dhinaca waxaan u wada ifka oo ifka xaran dhinaceeda oo waxaan u wada gubta xigto baawrka markuu dhaafo baawrkii marqay waa socodsiinay markaan maray isbuunyada oranay dalsan meesha oomada dalsan meeshaan marayno ismaa ifka xaran marka laga dhamaado ah la soo kala wareegnay baawrkana ku soo qaadanay isbartiibaan maqrib ku tukanay anaa la hadlayay anaa wareysanayay iima fahamsan in anaga wareysanay shaarkiisa anaa ugu xirnay sheekh nuur daawud anoo yimid oo amniga ah markaas daawudku wuxuu yiri guriga uu degan yahay guriga aan deganahay niyahow
waxaan ku raadiyay isheeg waa isku dhagan yihiin mana ka malaysanay ninka inuu meesha ku shaqeynayo daawudka warka ka xaqiijiyay intee lagu dilaa timid Sheekh Nuur intee lagu dilaa si shabaab isaga fogay eeda waxa soo baxay in lagu dilo meel xisbul islaam xasdar aweyso markaas hogaamiye u ahay difaacooda in lagu dilo oo gid jecel ahayd markii la dilay Sheekh Nuur Abkay kadib waxay Xasan Xanafi iyo Ismaaciil Stilla siyaabo kala gooni u soo waceen wariye Bashiir Khaliif Gaani oo u sheegteen inay iyagu dileen Sheekh Nuur Abkay bal ila dhagaysta codadkii uu xilligaasi duubay wariye Gaani oo aan ku hormarayo codka Stilla kadibna Xasan Xanafi adiga iyo wax la mid oo kala saas oo kale inaan u bireeyo saas oo kale inaan midda kaga mariyaro murtadi bax adiga naagaha murtadiinta oo meesha inuu joogay kuwa kale wixii murtadiin oo dhan waa la dilayaa adiga laftiga waa lagu dilaa murtadi oo qaayinka madaxaan laga jaray ilaahay ku dhaartay haddaan ku qabto jiro ma xakaa jirin islaamnimada aan sheeganay dhab ma haddaan ku qabto daada toobad oo intuu qoray idaacadeena markii uga sheekeeyay Xasan Xanafi sida ay u dileen Sheekh Nuur Abkay ayaan isku raacnay goobtii ay kala degeen baabuurka halkan waa isgoyska ifka xalane oo ku dhow garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho waxa uu Xasan oo wata gaari yar kala degay bartan Sheekh Nuur Abkay gaari caasi ah kadibna waxa uu la tagay garoonka Stadium Muqdisho oo in cabaara uu ku hayay ugu dambeyntiina waxay geeyeen meel u dhow hoteelka Daame ee degmada Wardhiigley waa kan Xasan oo dul geeyay goobtii ay ku dileen Sheekh Nuur Abkay sharaxayana sida ay wax u dhaceen halkaan ay ahayd geedkaana ku yaala barta halkaasaan gaariga soo dhigay halkaana la fadhiisay Sheekh Nuur halkaasaan maxaan ku raadiyay sheeg u toogtay meedkiisa sidaan ayuu u dhacay halkaan ayaana ka tagnay qiyaastii imisa xabaa lagu dhuftay 3 xabo 3 xabo yaa kala dhuftay waxa ku kala dhuftay leeyahay Xibuur in leeyahay Macaldaar Ciise oo 3 ay isticmaaleen makaaro hay xagee uga dhuftay madaxa hay 3 xabo madaxii ugu dhacday حتى فنينك waxay yimid gaariga ana waday halka laamiga laga soo leexanayaan joogay waxay igu yiraahdeen hatta maskaxda faniinkeeda ayuu soo gaartay ay igu yimaadeen gaariga waana gaariga bartaasan ku wada Xasan ma jecla sidoo uu xanuunka u dareensiiyay Sheekh Nuur Abkay in loo dareensiyo taas bedelkeedana waxa uu caruurtii iyo xaaskii Sheekh Nuur Abkay weydiisanayaa inay cafiyaan isagoo ku doodaya inuu diya ka bixin doono dilkaasi haddii dawladda Soomaaliya ay cafiso ayladiisi inay daawanayaan waxaan anigu belief gareysanahay oo aan aaminsanahay ayba tahayba soo haddii ay jirto عفين جودو لا يفيدين كلا إن لا عفيه هذه إن جرنا وحقشة يوجد إن شيخ نور ويران حتى أن عدي سلا تعامله ويران حتى دي أن كذي هذه إن عفيك كل شيء أنت سواها محمد إبراهيم راجع أو كتر سنة SNTV وحلو جد لي دقمة دركين لي السجوا عنقتي سلفت أو صارنتها فدينا على الباب كجورجيسا وحنا وكملها محمد إبراهيم وريال صارنا قارجة حسن حنفي مركو ديارنا شغال كحالي إيمان لكن أندر من خوش أو ما دام أو كهلية رياف قرشة waxaan ku irwaalay la saaray rag guriyaal la saarna oo kamid ah maxamed ibraahim raagi hadda dhintay dilka maxamed ibraahim markuu dhacay daqiiqada kadib waxa uu Xasan Xanafi soo wacay Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala oo kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu sheegtay inay iyagu dileen maxamed ibraahim raage raadalo qariiran soo fiican halkayga waran halkaygu waa maxaa ka soo galay maanta wixii iga soo galay sultaanka kala shaqaysanayna dadka la shaqaysto sultaan mahay hadde shaqada idinku dambayso meel xun idin la tagtay maxaa wada maxamed ibraahim raage nin rag oo dalkiisa dadkiisa u jihaaday oo u dhintay waayo isagoo khawaarijta idinkoo kaleeta la dagaalamaye waa gartay adigu haddana waxaad ii soo wacday inaad ku faraxsantaha soo maha wax kale waxaan kaloo qabtaa bina waxaas ku soo waclay shaqadeeda dhanba tahay fataan tiimka kale ka soo jeedo wala doqonnima idin haysa laakiin waxaad ogaataa qofka disaan qofka walaalkiisa bedeli doona iyo xaaskiisa iyo maaragtay haddaad u haysatiin inuu dhib idinka haran yahay dhib ka weyna idinka kordhi doona isaguna xisuu ku dhinto isagoo muslim oo maqrib maaragtay salaad maqrib uu heesa qaatoo dhintay idinkaana xisaabteedana idinka ajaabka gasho doontiin waxna idinma kordhin doonto marka
ولكن بقفانا لا إلهي يقول وانا يا حسابك آخرنا الله يساعدنا إلهي وما هذا دوانا وكفوا مجرم إلهي كفوا هذا ديك ذاك أحبار نتا ما لكم قارب بين أنا وخش دور مرة ورانا قلت لها في بكل مثلا كنت بيد وجد حتى لو وعندنا مرات جانس كلام كسونا وكوبي إلهي يطلب كيف وكل شيء وهذا والله وحني الأذيق جنس الله أنا كقاعدين qof kasta oo meeshan ka baxana qof walaalkiisii hooyadiisii aabihiisii xaaskiisii ilmihiisa bedeli doona ilaa qofku idinku dambeeyo oo idinka dhinto oo idinka iyo kuwa la midka ah أنا واشينا مجرمين من الشهيدين أنا واشينا ولا تقولوا لمن يطلب بسم الله ما تدل عيال عند ربي ولكن لا يشعرون قرآن إلهي أو قفل وحا قرآن ما تغنين بالا لقوقيا الذين أخرياه قرآن إلهي أو قفل إنما qaybo yar yar oo la soo googooyaa fasiraad qaldan lagu wajahsama quraanna quraan iyo diinna ma taqaaniin adna waa ku aqaanaa laakiin waxaad ogaataa adiga hadda wax badan oo kala hadlo ma garanayo laakiin kuwa ku soo diran oo sheeg aad la ogow jeedada maxamed ibraahim raage iyo kuwa ka horeeyay iyo kuwa ka dambeey doona xoog iyo awoodda radio muqdisho iyo SNTV kordhi doonta laakiin wallahi maalin la hoos dhigi doonin maalin kastana hadalkii shalay ku dhacay mid ka adiga idin ku sii dhici doona taas ku tashada يوم من الأيام waxaad ka warsan doonaa waxa aad sameynayso waxa aad hadda inaad sameynayso aaminsan tahay khayr ku tahay aniga shalay ugu aaminsanahay يوم من الأيام aad ka warsan doonaa saaxiib ma ku raadin sheeg mar kale waxaan kugu taleenay ilaahay u toobad keento haddii aad toobad keento wallahi waxaan aad ugu xumahay anoo saaxiibkay ahayd jibriga muslimka ahayd inaan wadada soo degeliyo saaxiib ma garatay labada ninkan gacanta laga qabto oo la toobada lagu celiyo mudan وهذه لكن إلهي هذول كوغر وأسرار ونزل وهذا بتديك تلكم كفانا يسوع أرتو علي عداوة عصور يكون كردين دونا هذه أنا مالحن وأتكسر ليسوا قولة دبين دونا الدنيا آخر بتاعه ومرجعنا وهذا هذه علمي وحوش كتبوا كم قانا هذه وزنقنا رجع حبها أهينا سلسلة شقيق جري لكن واقع الله حتى مال أقول حتى إيمان كي تنكي أصح ماتي ما عليك الله عطينا ما عليك الله عطينا ولين نينكي قياما نوبلا نينكي قالوا ويا قياما نوبلا نينكي جزايا نوبلا كهي تبدي inkastoo codkan laga hayo xasan xanafi haddana markan wuu iska bari yeelay inuu wax ka ogaa dilka maxamed ibraahim raage wuxuuse sheegtay inuu ku qanacsanaa siday wax u dhaceen ibraahim raage aad weyn uu qanacsanaa wali xataa anigu waxaan ku ogaa inuu joogay meel Kampala oo jaamacad u aadayaan ogaa wariye nasteex daahir faarax waxa uu ahaa wakiil wareedkii BBC iyo wakaalada wararka AB waxaa lagu dilay magaalada Kismaayo waxa uu ka mid ahaa xasan xanafi xubniye ka tirsanaa al-shabaab ee wax ka abaabulay dilka nasteex daahir faarax waxaana uu sharaxayaa sababtii ay u dileen nasteex daahir faarax wakiil wareed BBC Kismaayo ayuu ahaa al-shabaabna goorta la dilayay waxaan u maleynayaa inaynan galin gudaha magaalada Kismaayo oo uu maamulayay Colonel Barra Aadan Shira Barhira la ciidamo taabacsan ay joogeen magaalada Kismaayo ay toos u galin al-shabaab soo nasteex sababka lagu dilo waxay al-shabaab waxay abaabulayeen qorshe ay ku gali lahaayeen magaalada Kismaayo magaalo xeebeedda ah si dekadooda dhaqaalaha ka soo galay ay gacanta ugu soo dhacdo soo nasteexna maadaama wakiil wareed idaacad international uu yahay waxa uu tabinayo waxa ay tahay dagaalka inta uu socdo si dagaalku macluumaadda ay ugu yaraato ama lookalada bas suuriyaasha ka shaqeeyay ay u tabin karaan ayaa loo dilay nasteex waxa dilna waa al-shabaab laakiin fatwada waxa dhiibay nin la yiraahdo Ibrahim Jaamac Miicaad Ibrahim Qaan oo Abu Bakr Saylici isku magacaabi jiray xasan xanafi waxa uu sidoo kale wax ka ogaa dilkii agaasimihii Shabeelle xasan fantastic oo lagu dilay degmada Wadajir waxaana uu xasan sheeganayaa inuu la socdo hawshaasi ka hor intii aysan dhicin iyo kadib markii ay dhacday intaba حسن عثمان فانتاستيك أجاسمه راديو شبله إنه هايان رجينا واحد دلي وحيا هاي الشباب مركز كهرنا جروجيس إيديس أيال سوسهني وحنا اللي هو رجليه إن الدلي دونه حسن فانتاستيك ساسو أي تهينا
xasan fataasti waa la dilay wariyaal badan ayaa lagu dilay Soomaaliya waxayna ka midaysan yihiin badankood in qaabab isku eg loo dilay waana habka dhagarta ay wax u dilaan kooxda al-shabaab xasan xanafina waxa uu mas'uul uga ahaa kooxdaasi hawshaasi dilalka wariyaasha inkastoo markan uu dilalka wariyaasha badankood inkirayo iskuna muujinayo in qaybta uu ku lahaa ay ahayd oo kaliya inuu soo xaqiijiyo geeridooda waa kan isagoo markan dul istaagaya dilalka wariyaal ay ka mid yihiin Yuusuf Kaynaan Axmed Cadow Canshuur Maxamed Maxamuud Timacade Cabdi Xareed Aadan Cusmaan Xasan Yuusuf Absiga Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Fare iyo wariyaal kale Yuusuf Axmed Abubakar Yuusuf Kaynaan goob uu dhiganayay baabuurka in xogteeda la diyaariyay lala tacaamulay dadkii ka ag dhawaa goobta sidaasna ugu suura gashay in ragga ministeyaasha al-shabaab ay ugu xiraan baabuurka Yuusuf Kaynaan hoosta goobta uu fadhiyo inuu darawal ahaa la ii sheegay ay ugu xiraan dabadeetana way fushay Yuusuf markuu gurigiisa ka soo dhaqaaqay gaarigii uu soo watayna eerada xamrooyin inay ahayd ayaa la ii sheegay goobta lagu qarxiyay macalinkii uu ahay Allah irahma Xasan Yuusuf Absuge idaacada maanta idaacad la yiraahdo iga dambeeyay inuu la shaqeynayo waa la ii sheegay in dadkii dilayna TV aan ka daawaday ruux ahadkii dilay kamid ah xuduudii disho kamid ah oo booliis oo dhiigley isla booliisku dhiigley inaan ku wareysatay ila ahayd aad soo wareysatay Xasan ninkii dilay hadayba ahayd xaqiiqo maanta caawaqib xumadiisa uu haya laakiin waxaan horena kugu sheegay kugu celinay ayu journalist ama ay wariye ku sugan Muqdisho al-shabaab xaqooda waa ka xukumaya diloon uu xukumaya maalkiisa iyo naftiisana waa u banaanta Yuusuf Cali Ismaan Yuusuf Fare macalinkayga waa ilmo kuwiisana macallin oo ahaa malaynaya ilmo kuwiisana waa isla qaar isla shaqeeyno Xasan Yuusuf Cali Ismaan Xasan Carab hadda idaacad risaale inuu shoo ama irbaanta qarankana waa ku ogaa mar waa suuragal inuu joogo waxaasoo dhan waxaan ka ogaala ma arko laakiin waxaan aaminsanahay in al-shabaab jiray Axmed Cadow Canshuur waxaan xasuusanayaa markii aan maqlo barnaamijka Shabeelle ka baxa qubanaha Shabeelle oo aad u wadi jiray waxaan rajaynayaa in lagu dilay degmada Madiina sanadii 2000 iyo 12 xaqiiqdii ma hubo ilaa 12 meelaha mid u baayahay Axmed Cadow Canshuur waxa xaqiijinaya inay al-shabaab dileen waxa loo dilay inay ahayd barnaamijkaas uu waday idaacadda uu ka shaqeynay oo ay u ictiraafsan yihiin idaacad mufsidiin inay tahay ana waxa soo wacay Axmed Cadow Canshuur ka hor markii la dilay kadib aan iraahdee in la yiraahdo Maxamed Daahir Ciise oo saddex loo yaqaano ninkaas ayaan igu yiri ninkaas ayaan dilnay hawshiisana waa kaasa xog ka keen dabadeeto waxaan u maleynayaa rag guriyaal ah oo adigaba aad ka mid ahayd inaan soo wacay in ay xaqiijiyeen geerida Axmed Cadow Canshuur Timacade unfortunately Shabeelle ayuu ka shaqeynayay ka hor hadda markii la dilay wuxuu shaqeynayay Universal TV Shabeelle way ka soo guurtay dhismihii Bakaaro xilli habeen ah oo ay soo raratay alaabkeedii iyadoo xataa qaar ka mid ah shaqaalaheedii uga soo tagtay goobta ay ku sugnaayeen kadib markii albaabada ku xireen maalmaha ka mid ah isla Daahir Ciise soo wacay wuxuu ninkii afwan waxa soo wacay Yunis ninkii Timacade ahaa waa la kala tuuray waxaan ku raadayay isha arinkaas soo xuraansu ugu yiri waxaan ku yiri ma idaacadii oo ku noqday wuxuu ugu yiri maya idaacadii kumuuna noqonin
idaacadda universal oo markaas ka hor al-shabaab ay iska mamnuuceen dhiigooda iyo maalkooda way banaystay calleer ayaa si toosa u yiri TV-gaas u shaqeynay ugu yiri dadeeto waxaan wacay gabadhii uu qabay timcade waxaan ku yiri balwaran waxay tiri waa baxay cabdixaraad cusmaan aadan si ahaana isku xaafad baan ahayn saaxiibana waan ahayn shabeellana waa u shaqeynayay waana la dilay subax aroor jimca inay ahayd ayaan rajaynayaa ama subax khamiisaad midkood inay ahayd ayaan rajaynayaa soo ay dariiq cabdixaraad cusmaan aadan waxaan xaqiijinayaa in ay al-shabaab dileen sababka loo dilayna waxa uu ahaa inuu ka shaqeynayo idaacad ay iyagu aaminsan yihiin inay tahay idaacad gaalo oo ay qolo murtadiin leh cabdimaalig yuusuf oo ah mulkiilaha shabeelle ahna guddoomiyaha shabeelle iyagu waxaa ka dhadhacsan axad murtad inuu yahay حركات الشيطان وجهك صوحرتي حيدي لغا قادي إلى حي أرقيسيو حسدين كفوك باب حسودك كلايو حجرتو ذو داشتي allaha u naxariistay wariye xasan yuusuf absuge oo ka tirsanaa idaacadda maanta ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay meel u dhow isgoyska Siinaay ee magaalada muqdisho xilli uu ka soo baxay howl maalmeedkiisa waxayna dilka allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge maalin ka dambeysay qarax si wadar ah loogu dilay wariyaal iyo dad shacab ah guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho waxaana goobtaasi dadkii lagu dilay ka mid ahaa allah u naxariistay madaxii wararka telefishinka qaranka SNTV Liibaan Cali Nuur madaxii barnaamijyada SNTV allah u naxariistay Cabdisitaar Daahir Sabriye iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda VOD ee maxalliga ahayd Cabdiraxmaan Yaasiin qaraxaasi iyo weerarkaasi shirqoolka ee lagu dilay xasan yuusuf absuge oo maalin kala dambeeyay waxaa intaba mas'uul ka ahaa oo sheegtay kooxda ugus ekis al-shabaab daqiiqado yar kadib markii la dilay allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge ayuu telefoonka gacanta kula soo xiriiray xasan xanafi oo kooxda ugus ka tirsan wariye cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala isagoo u sheeganaya dilka absuge iyo kuwii ka horreeyeyba markii allaha u naxariistay xasan absuge la dilay maalintii liibaan iyo ay dhinteen ay cabdisataar maalintii ku xigtay oo xasan absuge ay dileen ayuu soo wacay anoo barxadda wasaaradda fadhiyo markaas uu maqlay wax yar 5 daqiiqo 6 daqiiqo ka hor dhimashada xasan absuge markaas wuxuu ugu dhahay hada shalana waxaan idinku sameynay waa ogtihiin maantana waa kaasa sidaas hadalla oo jees oo maaragtay uu ku faraxsan yahay inuu dilkaas ka dambeeyo halo cadaala حسن سيطة وفي عنا يورا وفي عنا الحمد لله هاي جو عالي حتى يوسف أبسط ووضع وقورة إلى طومان هاي اللمس هذا ما حاكو دعي أيوة هي ميت في سماشي هاي كسر قاطع زي الدعوة اللي عالي على كمين شاينا وكل اللي ذا الله يروح أبستار وفي عناي كل يوم كنا ماشي في ميل كل كل كتب بيت تنبأ إلى توبة كنا وياه والله مال حنا ذا قدام بيت وانا مالنا ما تاهينا نكتب واجد وانت مركا ديوان هي عدتنا نمن مارك تجاهدين وتلقوا تنتهي هايين قفت على وقت يسوق كلهم لكن وحنا جينا مالنا عدالة دور ما كنت كجواب مالنا ما انتهينا هذا كجواب وانت هذه عدالة دينا عدالة رجال ماشى كويدا وأسألكنا إن شاء الله لا تعالى نجد من الكل سلاسي سكلي تنمية قردين إن شاء الله هذا يوم جايين يدعمون وأسألكنا قالوا دم بس مالها وأركض أنت تبتاك واحد يقول أنت وانا قانا لكن مين كان قونا واحد مثلا مالها ما كنت بين دو أمريكا
waa la joognaa ninkii meel xun ku dambeeya waa la arki doonaa saaxib waa arkayna saaxib waa arkayna haddii meel fiican waxaan ku dhimanayna aanan aqoon idinka ha taqaaniin waxaa naga baabiin kartaan waa is arkaynaa insha allah saaxib okay waa arki doonaa meesha ku dambeeya dilalka wariyaashu waxay cabsiya baqdin ku abuurtay saxafiyiin badan oo awoodi waayay inay sii wadaan shaqooyinkay u hayaan bulshada waxayna u carareen dalalka dariska laha Soomaaliya qaar kamida wariyaashaasi oo qaxooti ku ah Uganda ayaa ka waramaya waxa ay ka soo carareen duruufihii aan Soomaaliya uga soo baxay qof kasta oo suufi ah ama wax garad ama aqoon-yahan ah waa miduu ka dharagsan yahay dhibaatooyin iska muuqda jira dilalka wariyaasha lagu hayay kamid ahaa markii aan shaqo joojin sameynay aniga iyo rag kale oo hadda raadiyo Muqdisho joogo iyo kuwa kale oo ku sugan dalkan Uganda dilkii Hiraabe iyo afduubkii JK agaasimihi Universal iyo dhaawacii Axmed Taajir waxay ahayd dhacdo su'aal ku keentay shaqada saxaafadda dhexdhexaadka ah inay jiri karto in kale 23 bishii December 2008 ayaa ugu dambeysay magaalada Muqdisho أنا مركا وشغلني تلفزيون كعالمي يونيفرسال ظروفي وكلفي إن أنا ودن ككسو على وحي هيد كذب مركي عن مري وددا مكة المكرمة دقيقة كور وأن تجي حرونت أن تلفزيون كمكة سيكوتي اللي هوتيل كعباشة بنعس الدنباء أي قاح كداعي وددا هالكاسو هوين wadada nadiifinayay oo wax ka yar $2 oo cunto ku bedel shaqo ah ku shaqeynayay meeno halkaas loogu dhigay ku qarxaday ilaa in ka badan 20 haween ayaa halka ku geeriyootay kontamayana way ku dhaawacmeen halkaas ayaa warbixin ka soo tabiyay kansoko wariyaasha la dilay waxaa jiray wariyaal kale oo la dhaawacay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wariye Maxamed Shariif wariye Muxidiin Xusni iyo wariye Xasan Matore waxa uu Xasan ka sheekeynayaa wuxuu ka ogaa weeraradii lagu dhaawacay wariyaashan Maxamed Shariif hadda wuxuu shaqeeyaa raadiyo barkulan ayaan rajaynayaa raadiyo barkulan al-shabaab waxay aaminsan yihiin waxa ay tahay in ay leedahay ciidamada African Mission in Soomaaliya ama AMISOM marka la soo gaabiyo loo yaqaano nin la yiraahdo Aadan Gaal Dile ayaa soo wacay asaguna ugu yiri Maxamed Shariif iyo nin la yiraahdo nin Shabeel asagana u shaqeynay oo hadda ugu soo warama magaalada Baydhabo magaciisa Abjool hadda ma xasuusto oo la dhaawacay asaguna oo reer Baydhabo ahaa labadaasba waxay soo wacay Aadan Gaal Dile محسن حسني يا معدين حسني لا لازم نقول له آدم قال لا يسوي دينا شيء حسن مطار والبنت قرنك أي شقيا يا رجينا وكيل ورد مركز وما شقينا لكن هذا إنه شقيان صور أنا داون تي في قرنك السود يعني أركي أساس ودينا وحا حقيقة إن الشباب دليل صوب كي يكون دليلنا وحنقول حقيقة يا إن أي تهاي إن ومرتد هاي xabada ay ugu fureen oo bistoolad xabadu waxay rabeen dhinaca wadnaha inay kaga dhuftaan ilaahay iga badbaadiyay oo naaska korkiisa kaga dhacday kadib dhulka ku dhacay markaas sidaas u fiiriyay laba cunug oo aad u tabar yar oo aday markaas labadoodaba madaxa iga xanuunay sida ay u egiyeen iyo waxa ay dabacsan yihiin ayaa markaas hal mar inaa mid kamid ah ku booda bistoolada la qabsaday adoo dhiigi gadaayo daqiiqad intaana fidhin gaariga xabadaha igu dhufan doona guriga meel banaankiisa ah yaalay yarkii macalinka wuxuu su'aalay warbalaago gaarigan ma gaarigii saaxiibaha yarka ahaydeen uu wadan jiray gaarigan fiiriyay waxa irinayo ma gaarigan waa duug kaasina waa cusub yahay gaarigii kolle gaari aniga iraadinayo ahaa markii aan wajiga u dhameystiray aqoonsaday inaan balaag ahay uu dhaqaaqay qadar daqiiqada ah ka bacdi anoo sheekadii ku mashquulsanaa waxaan ka war helay bareeg la igu aqabtay iyo xabad igu socota haddaan fiirshay gaariga holac qori afkiisa holaciisaan dareemay iyo dhawaqii rasaasta iyo derbigii aan fadhiyo ugu soo dumaaya xabad kama tagaanahay xaadi suxuufiyaanahay xadna kama baqaanahay xigmad ururiyaanahay xoqayntii warkaanahay xabad kama tagaanahay xaadi suxuufiyaanahay xadna kama baqaanahay xigmad ururiyaanahay xoqayntii
wadaanahay tacadiyada ay warbaahintu ku hayaan al-shabaab kuma eka oo keliya dilalka wariyaasha ee waxay sidoo kale xoog ku qaateen qaar ka mid a qalabka ay ku shaqaynayeen idaacadaha muqdisho sida IQK Soomaali Weyn Horn Africa Capital Voice BBC Warsan Baydhabo iyo idaacado kale oo ku yaala gobolada dalka waxaana xasan xanafi oo ka mid ahaa xubnihii al-shabaab ay u soo direen in idaacadahan ay bililqaystaan xaqiiqiyan anu waxaan u hayaa idaacadda ah Horn Africa warbaahinta Horn Africa Capital iyo Horn Africa isku wadatay iyo idaacadda Soomaali Weyn waxaa kaloo hubaa inay jirto idaacad ku taalay Sanca iyo Radio Banaadir isgoyska Sanca iyo Radio Banaadir inta ka dhaxeeyda oo laga qaatay alaab ay ka tagtay markaas idaacad ka guurtay meesha oo Maxamed Carab oo hadda Yurub inuu jiro la ii sheegay uu ka shaqeynayay idaacaddu ajooda magaceeda si rasmi ah uma hayo idaacadaasna qalab ay ka tagtay oo u badnaa qalab xafiiseed in ay qaadatay lagu dayactiray Radio Andalus Ceelbuur ayaan hubaa xaruntii labaad oo markaas xaruntii saddexaad bay labaad ay saddexaad oo Ceelbuur laga dhigay lagu dayactiray laguna furay ismihii ameelada FMT Soomaali Weyn laga qaatay BBC-na fatwo ayaa lagu qaatay si guud fatwo soo baxday oo badana uu soo bixiyay amarkiisa lagu qaatay ay xarumo badan ay BBC-du lahayd حتى حرنتي دمبو ودم بيسي وحن قد بتقني ماشي لنا مقالة بلاتوين حرنتا بقول كهيران وقد بتقني وحتى رجال لوح الحرير لأجل جد دبيتنا وان حلا markii ay dhacday intaasoo bililqaa waxay idaacadaha qaarkood bilaabeen inay si dhuumaalaysi ah kaga soo guuraan goobaha ay al-shabaab ka talinayeen waxaana ka mid ahaa idaacadihii sida dhuumaalaysiga ku soo guuray idaacadda Shabeelle ee Muqdisho maalmaha kamida ayaa waxay soo wacay ninkan maanta gacanta amniga ku jira Xanafi wuxuu yiri waxaan fadhiyaa goorow baar bulsho ay igu imaad baar bulshona waxay ahayd xaruntii Shabeelle degantahay markaas maqaayad u dhow ay ahayd waanu tagay oo amarka laba diidi karin asagoo qol dhex fadhiya oo TV-ga Al Jazeera fiirsanaya oo aad u qabto inuu TV-ga shaashada madaxa la sii gelayo markaan u imidna wuxuu ugu yiri hadii alla ku roon yahay maanta waxaan dhageystay warkiina idaacadda gabadha akhrineysay gooro waad ogtahay in gabdhaha codkooda uu dambi yahay marka waxaan rabaa inaad joojisiin hadii alla ku roon yahay gabdhaha wararka akhriya marka uu sidaas leeyahay wuxuu fiirsanayaa gabar hadii alla ku roon TV aan rabin hadda inaan magaciisa sheego warka akhrinaysa oo makrofonku meesha uu xiran yahay qaybta kore xabadkeedu uu muuqdo madaxeeda iyo jirkeeda kalena uu bannaan yahay oo warka akhrinaysa TV ayuu fiirsanayaa oo TV-yada afka Carabiga ku hadla kamida aniga hal maran carooday nin fiirsanaya gabar qaawan oo war akhrinaysa mid uu codkeeda maqlana igu haysta waxaan iri gabadha Carbeeda cawradeeda banaysa waa adiga calmaday oo TV-ga caasha galiye ma Soomaalida la calowdo codkooda ku dhibay wuxuu yiri risaaladii xambaarsantahay rabaa maahan anigu codkeeda muuqaalkeeda dan kamali midda aad dhageysatay risaaladeeda qaadaan iridana waa ka baxay markaan baxay xarunteydii aan tagay ayuu ii soo dhacay teleefankiisu wuxuu ugu yiri intaad iga soo maqnaad mujaahidiintu waa ka tashadeen go'aanna waa laga gaaray berri 6 saac ayuu waqtiga ku eegi waxaan ku yiri ilaahay adoomada shasha waa ka qariyay yaa ku siiya awoodda adigu aad ku ogaatay marka maalintaas ayaa waxaan go'aan ku qaatay inaan ka guuro hadii alla ku roon yahay Bakaaraha 3 bilood ayaan dib u sii deganay hase yeeshee 3 bilood maalin bashaay ayaan qaadayay dadku waxay u maleeyaan idaacadaas inay hal habeen soo guurtay ma soo guuray hal habeen muddo 3 bilood ayaan maalinba hal shay qaadayay habeenkii u dambeeyay inta u dambeysay oo hadii alla ku roon yahay maksarkii iyo FMkii iyo firdhisadii iyo inta hawada ku jirtay baa soo qaaday maahane wax kale oo alaabuhu ma isaaleen markaas iyadoona tallaabada ay Shabeelle ku soo guurtay ay carab ku abuurtay horjoogayaasha al-shabaab waa kan Axmed Cali Gees oo kamid ahaa horjoogayaashii waqtigaasi al-shabaab oo diinta ka saaray Shabeelle iyo shaqaalaheeda xilli uu telefoon u soo diray Abwaan Guure oo waqtigaasi ahaa agaasimihii Shabeelle qofku anigu wuxuu aan raaykiisa ku arkaan ku xukumaa ma ku degdego waxaan ku leeyahay murtadiina tihiin waa noo dagaal waxaad ridadaan dhinacaas ka marteen
sidii ridada idaacadda ridada u shaqeyn dhexdhexaadna ma aydin ninka bakaara ka caradaa tahay murtadaa tahay munaafaqa oo saariqa hata anaa kugu xukumay dhulkii muslimkaad isku aamini weyday xeradii gaaradaad gashay oo aadan idaacad dhexdhexaadeen sida idaacadda ridada inaad u shaqaynaydo waa ilaahay xamdigiis waaye yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicu aladiina kafaruu yaruduukum calaa caqaabikum fatanqalibuu khasiriina gaalaad adeecday muslimkiina waad ka carartay midda labaad waman yatawallaw minkum fa innahu minhum taasaad ku ridowdeen labada mata saddexa fa xukma aljaahiliyati yabquuna waman axsanu xukman liqawmin yuuqinuuna xukun daaquud ah oo cilmaani ah ayaad hoos gashay kii muslimkana waa ka carartay yaab leh ahayd barkii xasan cali gees waan qiinay haddii alla ku roon yahay weliba markaas ka hor wuxuu iska dhigi jiray odayaashii midnimada beelaha hawiye inuu ka mid yahay marka hal mar unbuu isbedelay oo ninkii waxaan aragnay haddii alla ku roon yahay maalin kastaba warkii idaacadda ka baxataa duubayo idaacaddii dhitigaraynayo haddii alla ku roon yahay dhegaysanayo saacad noo soo wacayo dhahayo warkaan aad hadda sheegteen sidaasaa loo qaadan karaa war sidii loo qaadan kara iska dhaafay ma yahay marka ninkii hal mar uu isbedelay oo aad u qabto haddii alla ku roon yahay wakiil idaacadaha loo xil saaray iyo kontaroolka iyo waxa ka baxaya ayaan aragnay hanjabaadihiisu ay xad dhaafeen oo xataa isku daya xataa haddii alla ku roon yahay marar badan oo noo soo diray kuwii wax dilayo ilaahay naga badbaadiyey marka sidaasay ahayd joogtay ahayd ilaa aakhirkii si warkooda uu u dhammaado oo xiriirkeennu toos ugu dhammaado aan gaaro inaan idhaahdo wax kastoo amar ahoo ay soo saareen maanta wixii ka dambeeya waa joojinay maalintaas ayaan ammaan ka helay intii ka horeysay hanjabaada iyo digdigta iyo dhaarta iyo weerarkuba joogtay ahaayeen kooxda xusbul islaam iyo al-shabaab oo afkaar ahaan iska agdhowaa ayaa mamnuucay inay idaacadaha sii daayaan shanqaraha astaamaha u ah idaacadaha iyo suugaanta soomaalida waxayna taa beddelkeeda amreen in idaacaduhu ay baahiyaan nashiidooyin carabi ah dhammaan idaacadaha maxalliga ahna amarkaasi u hoggaansameen marka laga reebo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka saxaafadda waxaan amraynaa ama faraynaa amar cadna aan ku baxahaynaa laga bilaabo 10 beri asiihinaa maanta laga bilaabo 10 beri 10kaas beri wixii ka dambeeyo idaacadaha waxaa rabnaa muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deynin muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deynin waa ognahay idaacado badan oo banaanka jooga inay aad u carood doonaan oo reer galbeedka oo aad u carood doonaan waa ognahay galabta laga bilaabo beri laga bilaabo idaacado badan qaali doona saxaafadii ayaa la curyaamay doona marka curyaamiis ma ahan muustikadaas iyo heesaas islaamka kamid ma ahan marka waxaan rabnaa waxyaalaha wanaagsan oo khayrka inay sii deyseen tobankaas beri waxa idin siiyayno ma ahna macna munkar isla saaca in la suuliyo waaye laakiin canjalooyinka iyo wixii isku dhex qasnaa inaa kala saaratiin rabnaa laakiin markii la soo gaaray maalmihii xorriyadda Soomaaliya ayay haddana mar kale amar ku bixiyeen kooxahaasu inaan la maamuusi karin lagana hadli karin taariikhda maalmahaas waxayna arrintaasi u cuntami weysay agaasimihii wakhtigaas ee Shabeelle oo ah hadda agaasimaha idaacadda kulmiye Awaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo amray idaacaddii agaasimaha ka ahaa in la saaro heesaha xorriyadda go-aanka hore lagu joojiyey astaamaha idaacadda iyo wax dhanna asaga ayuu ka soo baxay marka go-aankii ku qaraara ayaa shala ka soo baxay oo ahay lama xusi karo kowda luuliya ama lama sheegi karo ama lama soo hadal qaadi karo midaas oo aan u aragnay mid lagu inkirayo jiritaanka Soomaalida annaguna waxaan nahay saxaafad madax bannaan oo u shaqeysa ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan u aragnay go-aankaas inuusan ahayn mid la fuli karo marka qof aad go-aankiisii fuli weysana kiisii hore ma fuli kartid sidaa darteed go-aamadii ka soo baxay macalixaashi oo aan u aragno kuwo keligii asaga ku kooban inay yihiin waxaan garanay inaanna fuli karin dhammaantood dhammaan maamul iyo shaqaalaba inta joogta Shabeelle waa ay ku faraxsan tahay go-aanka aan qaadan عندي
xasan waxa uu sidoo kale ahaa tafaftiro qarsoon oo warbaahinta muqdisho ay lahayd waxaana uu ku maamulayay idaacadaha maxalliga cagajuglayn joogtaa oo ay barbar socotay inuu qaarajiyo kii ka madax adeyga cagajuglayntaas waxa uu sidoo kale xasan xanafi ku soo xiri jiray idaacadaha goobjoogayaal ka warbixiya meelaha ay wax ka dhacayaan kuwaasoo ka mid ah maleeshiyaadkooda oo iska dhigaya shacab ka agdhow goobtaasi anigu waxa aan sameeyey adigu oo wariye ah waxaa u baahan tahay cid aniga iga madax bannaan oo kuu xaqiijiso waa heli kartaa in fulaan kale ereydii wax aan ka samaynay jooga inaad la xiriirsid waxa uu kuu sheegi karaa xaqiiqda jirta laakiin anigu qof aan rabo waxaa laga yaabaa inuu askari uu yahay askari al-shabaab uu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa in xafiisyadooda ka shaqeeya inuu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa qof taageersan mabda'ooda inuu yahay laga yaabaa ayaan kugu soo xirayaa qofkaas waxa uu kuu sheegayaa waxa aniga aan rabo dadka marka aad idaacadaha ku xiri jirteen waa dad adinkeeda ka tagtay aad weyn waa lagu baraarugsan yahay runtii waa lay sheegay hay'adaha nabadgelyada oo kale akhbaaraadka aan ka helay waxaa ka mid ah in xogaha laga helay ay ka mid yihiin inuu yidhi maaragtay marka warbaahinta gaarka loo leeyahay qaar ka mida waxaan ku khasabnaa wararka ay sii daynayaan waa u tafatirnaa dadka soo wacaya ee ay codka u furayaan qaarkood baanu ku leenahay influence oo u magacuunaa arrintaasi runtii haddee waa ficilada ay doonayaan dadkan nabadiidka inay ku jahwareeriyaan ummadda soomaaliyeed horta waa ay dhacday oo xataa waxaa jiray kuwa ay iyagu leeyihiin oo ay annaga wariyaal nooga dhigeen xataa dhacday oo waxaa dhacay haddii alla kuro berigii lala dagaalamayay haddii alla kuro yahay muqdisho dagaalku ka socday wiil tooshow la yidhaaho wariye ahoo hadda ayaga ka mida wuxuu noo ahay goobjoogo wararka laga qaato oo jidka warshadaha iyo aagaas wixii ka dhaca haddii alla kuro noo soo sheego ilaa aan kadib ogaanay inuu yahay haddii alla kuro xiban ayaga ka mid ahoo u shaqeeya marka kadibna uuba noqdayba wariye toosoo warbaahintooda ka shaqeey marka waa ay dhacdaa waana joogto weliba waxaa dhaca ayadoo wax dhicin inta lagu soo waco lagu yidhaahdo meeshaas iyo meeshaasaa wax ka dhaceen lagana yaabo meeshaas hal bumbo in lagu tuuray oo hal qof oo lagu dhuftay iyo wax ku dhinta midna aysan jirin marka ayadoon dhicin mararka qaar in lagu soo wargeliyaa dhici jirtay waxaa intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan holnay codad fara badan oo xasan xanafi marxalado kala duwan ugu hanjabayay wariyaal gudanaya waajibaadkooda shaqo waa kan mid ka mid ah codadka hanjabaada ee laga duubay xasan xanafi isagoo wariye u sheegaya inuu dirqi kaga fakaday xilli ay dili rabeen maalinkii muus oo xamarweyne aad dirqi ku fakatay mardaba insha allah ma fakanaysmina ma aha xasan xanafi oo ku jira gacanta nisa waxaan u helnay wakhti badan oo aan kula sheekaysto waxaana xasan intii aan la joogay waxyaabaha iga fajiciya ka mid ahaa inuu weydiistay sigaar waxaana uga qaaday qof iga agdhowa markaasi bal si aan u ogaado waxa uu ku samaynayo wuxuuna shitay xasan xabad sigaar beensal ah isagoo qiiq badan ka daynaya afka iyo sanka kooxda ugus ee kis-al-shabaab horjoogayaashoodu waxay ku nool yihiin nolol cabsi iyo argagax leh waxayna cabsida ugu badan ka qabaan sirdoonka soomaaliya ee nisa waa kan xasan xanafi oo sharaxaya cabsida iyo walwalka ay nisa ku hayso horjoogayaashiiyo maleeshiyaadka kooxda ugus dhexdooda xogta rasmiga ah ee aan hayaa waxa ay tahay waxaan ku raahdaa maanta nabsuudda ama hay'adda nisa sirdoonka nabsuudda qaranka culayska ay ku hayso al-shabaab culays la soo koobi kara ma aha meeshaan aan ku jiraan ka dareemiyay culayska lagu hayo al-shabaab waxaan ku arkay rag xildhibaano soo dilay halkaanaan ku arkay oo la soo qabtay rag maxaan ku raahdaa dad soo dilay ama gudoomiye waaxeed soo dilay ama dad dowlad ka mid soo dilay halkaanaan ku arkay rag miinooyinka u qaabilsanaa jira al-shabaab oo iga soo horeeyeen halkaanaan ugu imdanay soo ay dariiq maanta shabaab nisa waxa ay ku hayso culays ugu weyn ma jiro sidaasi la mida warbaahinta qaranka waxay iyana ku noqotay utun kooxdaasi ugus waana tan keentay in loo ciqaabo horjoogihii codkiisa laga maqlo warbaahinta qaranka oo inta badan raadisa codadka horjoogayaashiiyo maleeshiyaadka kooxda ugus xasan xanafi oo ka mid ah horjoogayaal ka tirsanaa kooxda ugus oo tiro ka dhowr jeer ay codad ka qabatay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya xaaladaasu dareenka ay ka dhex abuurtay kooxda ugus iyo isaga lafahaantiisa dhibaatooyinkii ka soo wajahay
wallaahi naxdin uma dhinno qof al-shabaab ah in cod dowladdu ay warbaahinteeda ku qabato naxdin uma dhinno waxa uu ka naxayn codkiisa ma aha waxa uu ka naxay waa culays la saarayo way codkaada lagaga qabtay codad badan in ay iga qabato waa ogahay si saaxiibtinimo iyo si guud dad badan soo wacayna codad badan ay iga qabteen waa xasuusanahay culayska al-shabaab aan kala kulmayay wax inta ku yaala ma ahayn ziyaadaan kala kulmayay heer godone anoo joogo galguduud oo soo waco oo yidhaahda inuu soo mara xafiiskiisa oo yidhaahdo ha yimaado shabeellada hoose aa imaado shir goona oo la yeesho wayniyo xasan xanafi intii aan la joogay waxaan ku arkay isbeddel dhinaca muuqaalkiisa ku yimid markii iigu dambaysay wakhtigii uu ahaa saxafi ka shaqeeya magaaladan muqdisho waxaa xasan hadda ka muuqanayay dhaawacyo kuwaas oo sida la rumaysan yahay ka soo gaaray dagaallo dhowra oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaan isaga lafahaantiisa weydiiyey xasan dhaawaca ugu ballaaran ee wejigiisa ka muuqda wakhtiga uu gaaray iyo sida uu dhacay dhaawacan wuxuu u gaaray insaan qiyaasay sanadkii 2011 markii ciidamada Burundi ay damcayeen inay Beni la galaan kuwii gulid jalsiyaad ka dhaqaaqay Burundi faraha badan maxaan ku raadaa isha lagu leeynay ayaan maxaan ku raadaa isha uu gaaray hoobi inuu ahaayaan rajeynaya oo aan aaminsanahay hoobiyahaas aan ugu dhacay koox yar oo dacayadu sameeya al-shabaab waxay ku naqdiyaan waraysiyada aan qaado inay yihiin kuwa lagu qasbo dadka aan waraysanayo oo loo geysto jirdil iyo wixii la mida waxaan haddaba hordhigay xasan xanafi in lagu qasbay waraysigan uu siinayo iyo inay jirto jirdil loo geystay si uu sheegto waxaan jirin halkaa qol lambar 4 la yiraahdo room 4 la yiraahdo ka deganahay waa la soo baxay waxaan isdhaafsanan inayna jirin marka laga reebo in qorshuhu uu yahay sida tan ها iyo ma toonana maxaan ku raadaa ii sheeg ma dhihin ها baan soo irin ma toonana soo maanan oran soo jirdil wax la ilaalay ma geysan mana la geysan doosan dhaneertu waxaan u sheegayaa meeshu saad u moodin ma ahana si u taala ila arko يونس ومقع afgarashaha oo ay kooxda al-shabaab u yaqaanaan waana shakhsiga bedelay xasan xanafi markuu ku fashilmay wariyaasha يونس wariyaashu ma aqoon ka hor dilkii Saciid Haliil laakiin markii la dilay Saciid ay wariyaashu sas ka qaadeen xasan ayay kooxdu يونس u xul saartay inuu la macaamilo warbaahinta haddaba يونس waa kuma sirdoonka Soomaaliya ayaa intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijkan igu caawiyay sawirka Yoonis oo aan horey loo hayn waxaana markiiba aan tusay sawirkaasi xasan xanafi oo aan weydiiyey inuu yaqaan iyo in kale wuxuuna xasan xanafi ku jawaabay Yoonis si fiican u qala Yoonis waxa weeyaan hadda anigu noola ii dhintay ma kala garanayo laakiin markii war dambeeyay galguduud uu joogay Albuur uu joogay dabadeeto galhareeri uu joogay qoryoolay mar yimid aan isku aragnay intaanan bixin ka hor maxaan ku raadaa isha soo sii socda galguduud Yoonis hadda waxa weeyaan mas'uulka meeshii aan joogo shaqo xiriirka al-shabaab iyo warbaahinta u dhaxeeya ama maxalliga ama international aadaan ama kuwada ahaadaan maxaan ku raadaa isha mas'uulkooda weeyaan asoo naa'ibka ama ku xigeenka maktabka islaamka amiirkooda ah يونس markii uu la wareegay xafiiska warbaahinta al-shabaab waxa uu bilaabay isna in sidii xasan uu wariyaasha handado waxaana kamid ahaa wariyaashii u hanjabay Allah u naxariistay Liibaan Cali Nuur oo markaasi ka shaqeynayay idaacadda maxalliga Simba laakiin markii dambe cabsi uu ka qabo Yoonis ugu soo biiray warbaahinta qaranka waxaana Yoonis iyo Liibaan dhexmaray sheekadan halo Yoonis niyo noo sheeg arintan waxaan rabnaa inaan wax ka sheegnay ana waxay sheegnaa daawno ya daawno ku kaxsanaysaa maxaa dhacay waxaan ku weydiiyey hal markaa wareysanayay maxaa la ii sheeg qeylo Afrika ku handilay miya aniga wuxuu igu handida Afrika iska quseeya idaacad la magac idaacad la macnaha ii sheeg wax loo sheegay oo xisbul islaam sheegeen iyo Djibouti waxa iska quseey niyo Yoonis oo anaga dhan si kala noo aragtaa saaxiibo wallahi bidaat adni waliba si kala ku arkaa adna baan ku sheegin Abdicaiz Afrika oo maatay dhiiridiisa haddii cadowgiisa maqlaan geedahay ka baxaan ninka codkiisa hadday maqlaan geedaha ay ka baxaan waa gambadaan aad buu maatay
dowladda Soomaaliya waxa ay dul saartay madaxiisa horjooga Yoonis adduun dhan $30,000 cidii keenta macluumaad ku aadan sidii loo soo qaban lahaa horjoogahaas Yoonis oo wixii ka dambeeyay Xasan Xanafi isagu mas'uul ka ah dilalka wariyaal ay ugu dambeysay Allah u naxariistay marxuumad Hindiye Xaaji Maxamed oo dabayaaqadii sanadkii tagay ay qarax gaarigeeda ugu xireen kooxda ugus kuwaas oo dadkii fuliyay ay ku jiraan gacanta nisa hase yeeshee maskaxda ka dambaysa wariye la dilo wixii ka dambeeyay markii Xasan Xanafi oo shaqadaasi ka wareegay waxa kooxda ugu xilsaarnaa Yoonis oo hadda ay dowladda Soomaaliya abaalmarin lacageed oo $30,000 gaaraysa ku bixinayso soo qabashadiisa wixii waqtigaasi ka dambeeyay Liibaan Cali Nuur wuxuu ku soo biiray SNTV oo ka noqday madaxa wararka iyadoona aakhirkii al-shabaab ay ku dileen maqaayada hooyooyinka Xasan Xanafi Xaaji waxa uu muddo ka mid ahaa kooxda al-shabaab waxaan weydiiyay maalinna intuu ka mid ahaa kooxdaasi inuu ku fakiray inuu isqarxiyeen kale hadda ka hor maya hadda kadibna maya xasan shalay uu ku qanacsanaa ka mid ahaanshihiisa kooxda al-shabaab isagoo aan la qasbin ayuuna muddo u qabanayay howlo kala duwan kooxdaasi laakiin maanta wuxuu ku doodayaa inuu ka qoomamaynayo noloshiisii al-shabaab markii aan xasuusto noloshii maxaan ku raadaa ii sheeg al-shabaab runtii wax la soo koobi karo maahan sida aan noqonayo waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa waa isku bedelaya qanaacad guudna actually mise dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto waxaan ku raadaa ii sheeg al-shabaab runtii wax la soo koobi karo maahan sida aan noqonayo waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa waa isku bedelaya qanaacad guudna actually mise dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto Xasan Xanafi oo ay sirdoonka Soomaaliya nisa ka soo qabteen xadka Soomaaliya Kenya ay wadaagaan xilli uu doonayay inuu gudaha Kenya galo ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen inuu waqtigaasi doonayay inuu u socdaalo qaar ka mid ah wadamada Yurub ama Ameerika Yurub ayaan u sii socday leejdigeedina u socday dad ayaa dhahay visa waxaan haynaa Mexico oo Yurub oo Mareykanka ah dad waxay dhahayeen visa waxaan Ukraine oo Yurub saas loogu galayo Germany iyo Poland iyo wadamada xuduudda la leh saas loogu galayo dad bas si un aragtidooda dhiibay laakiin anigu qaasatan waxaan rabay Jarmalka inaan aado ama Ingiriiska inaan aado labadaas mid baa ii qorshaysnay Xasan Xanafi oo 32 jira waxa uu hadda ku jira gacanta nisa wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo oo aan loo maxkamadayn dambiyadii uu geystay waxaan codsan lahaa dowladda Soomaaliya waxaan ku raadaa ii sheeg gacanteeda hadda ku jira shalay waxaan ka aaminsanaa si aaminsanayn waa u sheegay waxaan ku raadaa ii sheeg bal haddii la fiirinayo xalka buugan xariista in la fiiriyo insha Allah laakiin wariyaashu saaxiibadoo dilay iyo helada dadkii uu dilay ayaa ku adkaysanaya inay arkaan Xasan Xanafi oo la hor keenay cadaalad wallahi waxay ila tahay Xasan waxa uu dadkan iyo dalkan u geystay isagoo qof ah wax aad u weyn weeyaan dhibaato aad u weyn weeyaan waxa la helayaa maanta wax ku dhow 100 caruur oo Xasan khiyaanooyinkii dambiyada uu mareegay uu agoontooday waxa qabriga ugu jira dad ka qiimo badnaa isaga oo soodomeeyo ku dhow oo nuucyo kala duwan ahaa waxa uu sabab u noqday in wadankan ay ka qaxaan dad ka badan 100 qof oo saxafiyiin anigu marka aragtida qof ahaaneed waxay tahay Xasan wuxuu mudan yahay waxa cadaaladdu ay qabto inuu maro oo cadaaladda la marsiiyo waxaan si caad ah markaan u ogaa inuu ka dambeeyay dilka la naxariistay Abi Saciid Axmed sanadii 2009 bishii labaad afarteeda oo aan arbacaha ku beegneed saacaduna ay 7:00 doornimo marka hadda waqtigan waqti uu cafis dalab badan ma aha anigu waxaan qabaa oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qabaan in sharciga la marsiyo oo lagu xukumo dil toogasho si ay ugu waan qaataan kuwa kale dhagar qabayaasha wallahi kulli Xasan Xanafi aniga waxaan codsan lahaa wixii uu xaq u leeyahay oo maaragtay
maxkamadii ku xukunto oo dembigu galay ah in laga jaasiyo kulle aniga taasay ila tahay sababto waxay tahay xasan dembi aan yareen uu galay qof walbana dembigu galay inuu maaragtay ciqaabteeda u helo wax meesha ku jira waxaanan codsanayaa oo aan in badan codsanayaa haddii alla koron yahay in la mariyo abaalkiisa oo dembigii uu galay oo ciqaabtiisa maro sababtoo ah waa dilaa laayay dad badan marka weliba waxaan ku tali lahay inaan hal mar la dilin la dilo haddii alla koron yahay maalmo badan in la dilo ayaan ku tali lahay marka sharciga in la hor keeno waxaan qabaa in cadaaladda la mariyo haddii wax ku cadaadaan ninkaas wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay u diyaarinayso Xasan Xanafi inay horgeyso cadaaladda si loogu ciqaabo dunuubtii uu geystay. Xasan Xanafi waxa la horgeynaya cadaaladda dilalka badan ee uu geystay wuxuu ka tirsan yahay ururada nabadiidka ayuu ka tirsan yahay al-shabaab iyo al-qaacida ka tirsan yahay qofkii aan isi soo dhiibin isaga oo aan dembi gacanta kula jirin oo lagu qabto qaabka Xasan Xanafi oo kale isaga oo ku dhex jira dembiyadii intaas oo qof dilayna sharciga dawladda uga yaala waa in la horgeeyo sharciga oo ciqaabta uu mudan yahay la marsiyo marka isaga iyo kuwa kale gacan ku dhiglayaasha ka dambeeyay ficilkii ugu dambeeyay hadda liida ka dhacayay ee aad arkaysid sida loogu xasuuqay dadka shacabka caruurta maatada qoysaska dada roosa wuxuu ka tirsan yahay Xasan Xanafi maragtay urur argagixisa oo naxariis lahayn oo dadka Soomaaliyeed diintooda iyo sharafkooda iyo dhiigooda banaystay marka waxa la marsiin doona ciqaabta uu mudan yahay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay waqti kasta heegan ugu jiraan ilaalinta amniga guud ee qaranka waxaan kormeer guud ku soo marnay magaalada Xamar dhamaanteed meel walba aan soo tagnayna waxa heegan ka ahaa ciidamada qalabka sida waxaan soo aragnay shacabkii oo diyaar u ah inay dawladda la shaqeeyaan amniga ay wax ka sugaan heegankaas ayaan lagu jirayaa ciidamada amnigu waa inay hawshooda qabtaan oo ay la dagaalamaan cid walba oo qalalaaso ama wixii criminality activities ama falal dambiyeed cidii wado inay la dagaalamaan waxa kale oo aan rabnaa in shacabka iyo ciidamada amniga ay si fiican u wada shaqeeyaan dhinaca kale waxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA markii ugu horeysay soo saartay awaamiir ku aadan la xiriirida iyo macaamilka maleeshiyaadka kooxda ugus ee al-shabaab war ka soo baxay NISA waxaa lagu sheegay in muwaadinkii lagu helo inuu telefoon kula xiriiray qof ka tirsan kooxda ugus inay tahay dembi loo ciqaabayo sidoo kale waxaa iyaduna dembi ah in lacag loo qabto ama loo kala gudbiyo kooxda ugus waxaa sidoo kale iyaduna dembi qaran ah in macaamil dhinac ganacsi ah lala yeesho cid ka tirsan kooxda ugus ee al-shabaab inkastoo dadkeenu dulmiga uu ka simayo dooxatadu xasuuqaan haddana waxa u sii daran duulkaan habaaranay saxaafadda ma daayaan warbaahintuna ma daayaan dabley aan la garan baa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kama daali doona dadweynuhu ogsoonow shacabkuna ma daayaan waayaaba yaa dilay maxaa wariye loo dilay ma la helay kuwii dilay hay-adaha duniduna u dulqaadan mayno iyo cambaarayn ma daayaan guud ahaan barnaamijkeennii dilaaga wariyaha oo uu ii farsameeyey kaameradana ii hayay saaxiibkay Moho Caraye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.